laga soo diyaariyey qol sooraan iyo shaqadiisa kadibna waxyaabo furnaan doona ra'yiga iyo su'aalaha aynu barnaamijka kusoo gabagabaysayno marka waan bilaaban doonaa ugu horreyn haddii aan siiyo xamdi ayaa bilaabaysa kadibna cabdi ayaa ku xigaya xamdi soo dhow. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa Social Science Forum iyo Astaan TV oo barnaamijkeena soo qaban qaabiyay saaxiibada meelaha kala duwan ka yimid si ay kulankeena uga soo qayb galaan iyagana waa u mahadnaqayaa. caawa waxaan iskugu nimid inaan ka sheekaysano mowduuc iyo hal abuur xiiso badan waliba aniga xamdahan xiiso gaar ah leh. sooraan Ismaaciil Sugulle sanadkii hore uu geeriyooday ilaahu naxariisto. sooraan Cabdi Ciise ka hadli doona shakhsiyadiisa laakiin waqti dheer buu fanka ku jiray laakiin 10kii sanadood ee ugu dambeeyay ayaa hal abuurkiisa aynu hadda naqaano uu soo saaray. sooraan wuxuu leeyahay aragtiyo fara badan oo uu bulshada ku naqdinayo. waxyaabaha uu naqdinayaa waxay ka kooban yihiin waxay bulshada aaminsan tahay. waxa kale oo ay ka kooban yihiin habdhaqan ay bulshadu ku wada dhaqanto ama qayb ka mid ah bulshada ay kula dhaqanto amaba deegaanka ay ku nooshahay ay kula dhaqanto. sooraan wax soo saarkiisa si aynu u qiimayno oo aynu u falanqeyno oo aynu uga sheekaysano aynu uga doodno waxaynu u baahannahay indho ka duwan madadaalo inaynu ku fiirino. qofku inta badan markuu ruwaayad ama filin ama hees noocu doona fan uu sameynayo ujeedada weyn uu ugu sameynaya maaha inuu ka qosliyo qosolku waa qayb ka mid ah laakiin fariin baa la socotaa. fariintaasi ama waxa laga yaabaa inay aragti naqdinayso ama ay wax kale bulshada ay u sheegayso. marka horta waxa ugu muhiimsan ee kulankeena dhinaca wadaaranaya waxa weeyaan sooraan markaynu daawanno ama aynu dhageysanayno inaynu indho ka dheer madadaalo aynu ku fiirino. tusaale fudud waxaan usoo qaadanaya waxaa jira filimkiisa aan isleeyahay waana kiisa ugu kooban wuxuu socdaa 2 daqiiqo. marka filimkaasi wuxuu ka kooban yahay hal weer halkaa weer buu ku celcelinayaa maanta dhan. marka qofku markuu daawanayo qof weyn oo marna jiifsanaya marna fadhiisanaya hal weerna ku celcelinaya waxa laga yaabaa inuu ku qoslo. filimka waxaa la yidhaa hadeerta maxaad lahayd waana wax lagu qoslo nin weyn oo galgalanayo fadhiisanaya laakiin waxaan isleeyahay sababta uu filimka u sameynayay maysan ahayn inaad ku qosasho kaliya. isagu ujeedo kale ahaa adiguna ujeedo kale laga yaabaa fariin kale inaad kala soo bixi karto. anigana xamda ahaan 2 fariimood baa dan kaasoo kale siira dul istaagno iga dhex muuqanayay laga yaabaa inuu u jeeday mudaharaad oo kale telefoonada inuu ku wada hadalno shirkadana iga iibiya wax laga yaabaa wax yar markaad ku hadashay in lacagtu ka dhamaato inuu fariinta u jeedo waa suurtagal. wax kale oo suurtagal inuu dhalinyarada shukaansada ee caawa dhan wada hadlaya waxay ka wada hadlayaan oo macna leena aysan jirin inuu u jeedayna waa suurtagal. fariin kalena qofku kala soo bixi karayaa. haddaba kulankeena caawa waa isku day kooban oo lagama wada gaarsi karo laakiin wax ka mid ah ruwaayadihiisa aynu ku dul istaagayno. sooraan wax soo saarkiisu wuxuu u adeegsan jiray 2 laamood oo fanka ka mid ah isaguna wuxuu ciyaari jiray dhowr door oo kala duwan. marka koowaad hal abuur buu ahaa isaga filimada iyo ruwaayadaha qori jiray. sidoo kale wuxuu ahaa jilaabo ahaa waliba si aad u qurux badan oo jila maaragtay kolba kaalintuu qaato bulshada uu matalayana si aad u maaragtay xiiso badan u matala dabiici ah oo iska yeelyeel ahayna oo runtii uu lahaa. labada nooc uu adeegsan jiray waxay ahaayeen filimaanna uu sameyn jiray isaga filimada qori jiray jilistana ka qayb qaadan jiray sidoo kale ruwaayadana uu nala wadaagi jiray. si guudna marka filimada iyo ruwaayadaha la eego wax badan ay iskaga mid yihiin waxyaabaha qaarna way ku kala duwan yihiin. tusaalahan labadooduba sheeko leeyihiin inay jilayaal leeyihiin in ujeedo maaragtay ay jirto fariin ay gudbinayaan ay jirto intaa waa iskaga wada mid. waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa kamid ah ruwaayadu inay wax dabiici iyo dadka hortiisa masraxa ka dhacaysa ay tahay
filimkuna waxoogaa maaragtay faragelina lagu sameeyey marka filimku sidiisa waa hal abuurka marka laga hadlayo fanka kuwiisii ugu dambeeyay dhawaan dhaladka ahaa oo qarnigii hore markii teknolojiyadan maaragtay casriga ay hana qaaday ayuu la dhashay laakiin masruxu aad buu uga cimri dheer yahay inagu riwaayadda waxaynu isticmaalnaa halka masraxa carabi ahaan riwaayaddu waa novelka ama sheeko faneeda laakiin inaga halka masraxa ama tiyaatarka ayay inaga inoogu jirtaa marka riwaayadda marka laga hadlo waxay yidhahaan bulsho kasta oo dunida ku nooleed qaab masraxeeda ay isku madadaalisay lahayd laakiin bulshooyinka oo dhan nasiib umay helin in raadadkaa la helo oo bulshooyin kooban ayuunbaa xadaaradoodu gaadhsiisnayd heer maaragtay qoraal ay samaystaan xadaaradii Greegii hore iyo Hindidii hore Shiinaha masaaridii hore dhammaan raadad maaragtay masrax ama riwaayad waa lagu jira waa laga soo helayaa hadda waxaa la sheegaa riwaayadda dunida ugu cimriga dheer in 25 qarni ama 500 sano dhalashadii Nabi Ciise ka hor ay jirtay masraxan cusub ee hadda maaragtay casriga wuxuu ka soo bilaabmay Greega isaga markaa reer galbeedka ku fiday markii dambana maaragtay dunida oo dhan wada saameeyay innaga markaynu Soomaali ahaan ka hadlayno riwaayadaha ama masraxan walow aynu lahaan jirnay qaab masraxeed hore oo tusaalaan ciyaar dhaqameedka iyo sidaadka iyo abayda iyo waxaasoo dhan ay masrax ay ahayd iyo qaab ay bulshadu isku cabirto waliba sidaadka oo kale wuxuu ka mid yahay masraxyadaha ugu horeeya maaragtay bulshooyinka ay yeeshaan oo ah mid diineed laakiin masraxan casriga ah ama riwaayadahan Soomaalida qarnigii hore bartamihiisii buu soo galay sida ereyada aynu isticmaalayna riwaayad iyo masrax iyo tiyaatar ay dhamaantood wada yihiin ereyo inooga yimid banaanka ayuu inaga mataqaanaa masraxan casrigiina oo banaanka inooga yimid Maxamed Daahir Afrax ilaahu naxariisto isaga laftiisu sanadkii hore uu geeriyooday wuxuu leeyahay buug aad u xiiso badan oo fan masraxeedka Soomaalida uu kaga sheekeynayo marka wuxuu leeyahay sababaha ugu muhiimsan ee masraxa Soomaalida uu hana qaaday laba mid baa sababaysay Muqdisho kontamaadkii ka bilaabmay marka wuxuu leeyahay labada waxay sababay waxay kamid ahaayeen magaalada Muqdisho midabta koor baa jiray cadaankii tarada ee maaragtay maamulayay dadkii magaalada deganaa ilbaxa ahaa ee magaalada ku dhacayay ee u baahnaa inay madadaaloodaan waxa mamnuuc ka ahayd inay shinomooyinka tagaan marka bulshadii waxay ku qasbanaatay qaab ay isku madadaaliso inay iyadu samaysato qodobka labaad wuxuu leeyahay masraxii Hindida oo ku soo qulqulayay Muqdisho walow shinomooyinka aan loo ogolayn Soomaalida haddana siyaabo kala duwan ayaa maaragtay uu ku soo gaadhay marka labadaas sababood buu wuxuu leeyahay waxay ka mid yihiin sababihii oo masraxu uga hana qaaday maaragtay deegaanada Soomaalida markii dambana uu fiday masraxa Soomaalida waxyaabo badan uu la wadaaga dunida waliba inaga masraxeena Hindidu masraxa Hindiga aad buu ama riwaayadaheena uu aad buu saameyn badan ugu leeyahay waxyaabana gaar buu leeyahay oo fariinta la gudbinayo iyo maaragtay qaabka loo gudbinayaba inaga oo kale waxa aad ugu badnaa tixda aad ugu badnayd maadaama bulshooyinkii xoolo dhaqatada ahaa ee magaalooyinka soo galay afkoodu hodanka ahaa riwaayadaheena oo dhan intay tiraab ahaayeen waxa ka badan intay ahaayeen tix oo heesa iyo maaragtay ay maansooyin ay ku jireen masraxu laba ujeedo waaweyn ama riwaayadaha ama filimadu ama fanka oo dhan laba ujeedo waaweyn ayaa sidiisaba loo u jira inuu qabto midda koowaad waxa weeyaan inuu bulshada madadaaliyo nolol maalmoodkooda iyo culaysyada ay aadamuhu sidoodaba u qabaan inay waxay kaga baxsadaan oo isku madadaaliyaan inay helaan taas waa ujeedo laakiin ujeedada ugu muhiimsan ma aha ujeedada ugu muhiimsan waa inuu wax baro bulshada waxa uu barayaa waa wax cusub oo ku soo kordhinay noqon karaysa ama wax si qaloocan ay u haysato laga saxayo marka Afrax wuxuu yiraahdaa sababta hoygii masraxa Soomaalida
loogu magac daray golaha murtida iyo madadaalada waxay sheegaysaa labadii shaqo ee fanku qabanayay in masraxii golihii masraxa loo bixiyey marka ujeedada ugu muhiimsan fanku inay tahay murtida oo waxbarista ay tahay madadaaladuna ay tahay dabinkii lagu soo jilaabayay dareenka qofka ama dareenka bulshada ay tahay Soomaalida markii magaalowgu dawladnimada markay u dhalatay magaalowgeedu korukac maaragtay ballaaran buu sameeyo aad bay magaalooyinka ugu soo qulquleen ay u yimaadeen marka dadkii baahida u qabay madadaaladuna aad bay u bateen marka xilliyadaas masraxa ama riwaayadaha Soomaalidu ay kor ugu kaceen innaga industry-ga filmku ilaa marka hanaqaad fiican imkada lafteeda muusan hanaqaadin waxaan la oran karaa laba waxba sababaya kharashka badan uu u baahan yahay iyo aqoonta tiknoolajiyadeeda ee maaragtay inuu u leenahay filimada oo aan jirin si guudna masraxa laftiisa waxyaabaha aynu soo bowsanay oo dad si aqoon ahaan u bartay aad bay u kooban yihiin marka sanadada uu korukaca ballaaran uu sameeyay horta waxa inooga haray kayd afeed oo aad u muhiim ah waxa kale oo inooga haray kayd dhaqan oo bulshadu say u dhaqmayd iyo sidii u fakaraysay haddii maaragtay la qoro ama la kaydiyo wax badan laga faa'iidi karo laga daraasayn karo laakiin su'aal kale oo isweydiin leh baa jiro xilliga kobaca ballaaran uu ku socday fankeenu ma aha kii bulsho magaaloobaysa ay u baahnayd aniga waxaan isleeyahay maya laba waxna way sababi karaan nidaamkii jiray ee kali taliska ahaa hal abuurka umuusan ogolayn inay dareenkooda iyo aragtiyooda cabiraan marka iyadoo musuqmaasuq iyo cadaalad darro iyo faqri iyo gaajo ay jiraan abwaanku wuxuu iskaga qasbanaa inuu sameeyo hablayahoo hadmaad guursan doontaan iyo wax la halmaala qodobka labaad ee iyadana saameynaya wuxuu ahaa bulsho xoolo dhaqataa ah oo muxaafid ah baa fanka maqoonisay markaa mawduucyo kooban ayay kusoo urureysay mawduucyada naqdinta ah aad bay u koobnaayeen riwaayado kooban oo maybe ay bustaalo iyo shabeelnaageed iyo riwaayado kooban baa naqdin laga soo heli karaa masraxa Soomaalida haddaynu intaa kaga soo gudubno taariikheynta masraxa iyo riwaayadaha ama filimka ee Soomaalida waxaan wax yar eegi doonaa naqdinta aragtiyaha naqdinta iyadoo la adeegsanayo fanka ama ha noqoto masrax ama riwaayad film ha noqoto hees ha noqoto waxay doontaa noqoto fan oo dhan faa'iidadu leeyahay qofku markuu buug qoro ama article rasmi uu qoro ama shir jaraa'id uu qabto ama qof khalad sameeyay uu ka hadlo ama bulsho samaysay inta badan xasaasiyadday kicinayso ama iska caabinta aad u badanaysa waxa laga yaabaa in la yiraahdo qofkaas hebel buu jeeday ka kale uu jeeday iska caabintu aad bay u badanaysaa laakiin qofku markuu qaab mala awaala mawduuc bulshada ka dhex jirta oo u dhigo markaad akhriyayso adiga hebeladan kuma muuqanayaan oo hebel aad garanayso ma aha lama tacaadufaysid laakiin waxaad mataqaanaa ku xidhmaysaa dhacdada iyo sheekadu siday u dhigmayso saddex tusaale soo qaadanaya sheekada Maanafay Dr. Afrax markuu buugiisa qorayo tanaadkii baa filaya inuu buuga qoray waxaa ku jira laba maaragtay dhacdo xiiso leh gabadh biidan shabeel la yiraahdo jira oo sheekada dhexdeeda hawl qabanaysa gabadha duruufta samaysay iyo say u dhaqmayso runtii aad baad ugu xidhmaysaa iyo nolosheena laga dhex heli karayo waxa kale oo aad uga hadlayaa Afrax dadka xilalka dawladda iyo awoodda uga faa'iideysta in baahiyaha gabdhaha yaryar ay ku danaystaan laakiin maanta hadduu qofku shir jaraa'id qabto ama uu qoraal ka sameeyo waxa laga yaabaa in loo arko qofkan waa reer hebel oo maaragtay qofkan uu jeedaa marka aan mawduucii la danaynin iyada markuu ka hadlayo Xasan Sheekh Muun riwaayadii shabeellaagood kale waa la mid saameyn badan oo yeelatay riwaayadaha kale aad ka saameynta u leh runtii oo aan xiiseynayna dul istaagno waxa kamid ahaa riwaayada oo bustaale oo khuraafaadka iyo faalka iyo waxyaabaha aad u naqdinaysay ana waxaan isleeyahay wadaad kasta oo ka wacdiyay bulshada muuqanyahan kasta oo ka hadlay riwaayadaasi intay bulshada saameysay
inaysan weligee saameyn sooraan markaynu nimaadno riwaayadihiisa badankooda ama aragti buu naqdinayaa ama qaab dhaqan bulshadu ay ku dhaqanto qabyaaladda hadday noqonayso musuqmaasuqa hadday noqonayso dumarka hadday noqonayso dhinac kasta markaad eegto ama deegaanka ay la nooshahay bulshadu say ugu dhaqanto ula dhaqanto imka tusaalahan riwaayadda dhuxusha oo kale markuu matalayo dee aad baad ula tacajabaysaa runtii sida uu dadka ka shaqeeyo hawshaas si maaragtay xiiso badan uu naqdinayo dadka deegaanka ilaalintiisa ka shaqeeyana riwaayadiisaasoo kale in adeegsadaan aad bay muhiim u tahay inta haddaan kasoo gudbo waxaa rabaa inaan yaro dul istaago tiimiska kale cabdi ciisena uga tegi doonaan laakiin sooraan iyo dumarka dhowr 3 riwaayadood oo uu ka matelay mid waa waxbarashada gabdhaha midina waa kufsiga riwaayadda kale aniga horta waxaan u aqaanaa islaantayda ayuu tiri sooraan siduu waxbarashada gabdhaha uga hadlayo runtii aad bay xiiso qaab progressive oo maaragtay aad u dhiirigelinaysa isagu waa nin reemiyo ku matalaya gabadh yar oo dhalay waa magaalada la keenaya adeerkeed baa haya marka gabadhaasi markay wax barato inuu nin intuu xoola ka qaato uu ku daro ayuu doonaya laakiin adeerkii baa diiday gabadhaas uu haddaba saa ula dhaqmayo oo u diidaya inay wax barato marka ay shaqaysatay isaga wax tarto qaabku uu eegayay isbeddelka ku dhaca taasaa runtii aad u xiiso u leh oo waxaa kaaga dhex muuqanaysaa masalada dhaqaaluhu markay isbedesho sida kaalinta qofku ama maxaa la dhahdaa qofka jinsigiisu ay isku bedeli karto gender role-ku say isku bedeli karayso tusaale ahaan oo kale bulshooyinka aan wax baran ee xoolo dhaqatada ama baadiyaha ku nool gabadha say u arkaan iyo gabadha markay magaalada joogto intay wax barata ay shaqaysato say u arkayaan isbedelka ku dhacaya ayaad riwaayadda dhexdeeda ka arkaysaa aadna way u xiiso badan tahay runtii kufsiga oo kale markuu iyadana ka hadlayo si aad u xiiso leh uu u matalaa gabadh la kufsaday inuu leeyahay maaragtay intay reerkii soo wada hadlaan marka la yidhaha waxbaa lagu siinayaa ruuxan wax dhici jiray bay ahayd wax hadda cusub ma aha waanay dhici doonaan aynu halkaa ku dhawaynayo inaan dacwad iyo waxba geynin riwaayadda kale iyadana isdultaaga mudani waxa weeyaan riwaayadda nin gabadhiisu ay shaqayso ninkaas isaga waxba ma qabto nacamti waa kaalintii bulshooyinka bilowga ahaa dumarkaa kaalinta noocaasa ku jira gabadhu inay guriga joogto aanay waxba qabanin ay dumarka u sheekayso markay waqti faraaqa ay hesho ninkan haddaba gabadhiisa shaqaysa iyadaa maaragtay waxyaabuhu ku qayla iyo shaahiis iyo waxaas bixisa isaguna markuu sheekaynayo qofka sheekadiisa oo dhan saameynta ku lehi waxa weeyaan waxaaskiisa marka markastuu ragga u sheekaynayo wuxuu leeyahay islaantayda igu tiri ragguna waa aad bay ula yaaban yihiin marka waa maaragtay masale xiisa badan oo marka la isdul istaago wax badan ay kaaga soo dhexbaxayaan weliba arrinka dhaqaalaha oo kale maxaa la yidhaahdaa horta intaasaan kusoo koobayaa 3 riwaayadood ee dumarka waanay badan yihiin oo kuwo kala duwan oo mawduucyo kala duwan uu kala hadlayaa jira laakiin waxaa aad u xiiso leh nin sooraan oo kale ah oo aan aqoon maadiya aan lahayn oonan islahayn wax uu akhriyay baa jira haddana in fikrado sidaa u horumarsan inta uu bulshada mushkiladaha haysta uu fahmo inuu aragtiyo noocaasa soo saaraa waa wax aad u xiiso badan runtii waxyaabahan weliba uu ka hadlayaa markay de ingiriisu ku qoran yahay wax laga yaabaa inay sociology ay noqdaan oo maaragtay mawduucyo waaweyn oo jaamacadaha lagu daraaseeyo ay noqdaan laakiin inagu waxaynu ku qosolno unbay inoo yihiin ka intaasaan kaga baxayaa aad baadan u mahadsantihiin waa tahay haddii aynu mawduucay qaybtiisa koowaad halkaas ku dhaafno oo xamdi ay inoo soo jeedisay hordhac la xiriira sooraan riwaayadihiisa iyo dumarka riwaayadaha uu ka sameeyey markaan waxaan u gudbaynaa cabdi ciise oo inoo soo jeedin doono taariikhda sooraan oo kooban iyo fariimaha ku jira riwaayadihiisa cabdi soo dhow بسم الله طبعا حمدة انتي بنيت قاتي هردع في عنا مارتي كسمي يصير موضوعه طبعا حيركو بلا بورت الصوران تاريخ ديسا وحوشيغ ورئيس اللي شنو لشيء قياستي كون 900 كنتن يتضبدي ميغا برعا وكل شيء
waqti adigu xilligii abaartii daba dheer ay dhulkan shabeellada hoose isaga iyo faamiligiisii dowladda usoo rartay isagoo marka halkaa jooga in ay qolyo mataqaanaa wax jila ay ugu tageen markaasna uu sidaa kusoo raacay oo kusoo galay fanka iyo maaragtay jilista xamar markuu yimid wuxuu ka mid noqday koox la dhihi jirtay durdur oo markaas lahaa qayb jilisana lahayd fanaaniinna lahayd waxaa ka mid ah hadda kanool shimaali axmed shimaali qolyahaas durdur buu ka mid noqday waqti aada u kooban buu marka xusayaa in uu ku jiray jilista xilliga uu soo gelaya waa 1979kii dhowr waxaa jira riwaayadood uu markaas waqtigaas uu ka qayb qaatay waxaa ka mid ah isaseega jacaylka yaa u walqalay waqtiga iyo deeq ilaah iyo jacayl daacada marka waqti muddo aada u kooban buu berigaas ku jiray jilista adigu wuxuu jilista dib u biloobay 2012kii isaga iyo wuxuu xusayaa iyo jawaan oo dadku isku sheegeen oo yiri niman yahow labadiina haddaad isashaan wax weyn baad soo saari kartaan marka adigu riwaayaddii ugu horreysay deegaankii ku saabsanayd 2012kii bay ay riwaayaddaas jileen waxaa laakiin riwaayaddii ay kusoo caan baxeen waxay ahayd riwaayaddii markii xisbiyada somaliland ururada la furayay riwaayaddii ururada ka sameeyeen waa riwaayadaha ugu xiisaha badan oo dadku inta badan ay maaragtay ay ku barteen sida xamdi ay xustay dabcan riwaayaddu waa nooc ka mid ah suugaanta ama waliba noocyada sida ugu maaragtay farshaxanka iyo sareysa sawir uga bixisa maaragtay mashaakisha iyo dhibaatooyinka bulshada maaragtay ka dhex jira si bulshada markaas isbedel wanaagsan oo bulshada la rabo in lagu sameeyo positive social change si loo bulshada loogu sameeyo waa mid ka mid ah noocyada suugaanta marka sooraan sida xamdi xustay isagoo ahaa nin reemiya oo miyi ku koray oo isku waxbarasho badan gelin haddana markaa fiirisid siduu wacyigiisa iyo u sareeyey iyo fahamkiisu runtii waa arrin aada ula yaabaysid ama waxaan dhahaa wuxuu ahaa xaliya public intellectual ama indheergarad bulsho inuu ahaa baan aanu ku tilmaami karaa dabcan nin wax qoraa ma ahayn laakiin aqoonta ku jirta riwaayadihiisa haddii culumta bulshada la fiiro runtii cilmi badan baa ku jira aqoon-yahan kasta iyo sheekh kasta iyo wadaad kasta waxaan isleeyahay haddii loo fiirsado ayagoo dee haddana kaa qoslinaya dabcan riwaayaduhu waa wax dad ku madadaashaan oo dad ku qoslaan laakiin haddana fariimo maaragtay waxbaris iyo wacyigelin iyo mataqaana dadka wacyigooda inay kor u qaadaan baa fariinta ugu muhiimsan ku jirta ay tahay tiam baa la jiri jiray riwaayadaha isagu keligiis ma ahayn isaga iyo jawaan iyo dad kaloo asxaaba laakiin isagu sooraan sababtaan usoo qaadana waxaa horta qofkii tiamka dhammaan riwaayadaha ay jiraan horta isagaas riwaayadaha ay jileen dhammaantood isagaa sameeyey qaabka ay jilniinka u sameynayaan siday u istaagayaan hadalladay oranayaan maaragtay waxaas oo dhan isagaa uu ahaa mataqaanaa tababar qofka keliya wuxuuna ahaa runtii khibrad jilis leh dad iska dhalinyaraa bay u badan yihiin dadka la jilaya gabdhaha iyo wiilasha marka isagoo horta isagaana sameyn jiray jilaana wuu ahaa dadka wax la jilayana isagaa tababari jiray hadalladay oranayaan iyo sida isagu markaa u fiirsatid waa dareemaysaa qofka ugu maaragtay ugu taalantisan inuu yahay hadalladu oranayo iyo qaabka uu mataqaanaa markuu wuxuu ka hadlayo markaas dareenkiisa siduu iskula bedelayo qaabka uu istaagayo marka waad dareemaysaa inuu nin ilaahay u dhaliyey maaragtay hibo ilaahay siiyey inay tahay waxyaalaha anigu aan riwaayadihiisa aan isdhigi karo oo soomaalida inay soo jiitaan waxay qeyb ka ahayd horta sida mataqaanaa wacyiga dadka waxa markay bulshada ka jira sida ay ugu matalayaan oo si aada u sareysa ah way jiraan dad badan oo wax jirjira laakiin ayuu qofku wax markaa bulshada uu dareemayo haddana laakiin riwaayad loogu matalayo aada uga helayo somaliland bay burcay ku jirayeen laakiin dhammaan deegaanada soomaalida waxay ka hadlayaan waa wax ka jira dabcan way jiraan riwaayado somaliland gaar u ah laakiin inta badan riwaayadoodu dhulka soomaalida meel walba ay degto mashaakisha iyo dhibaatooyinka jira unbay maaragtay tusaale ka bixinayaan
waxyaalaha riwaayadiisu aniga gaarka ila leeyihiin waxaa ka mid ah inta badan hadda riwaayado badan baa la sameeyaa waxaa la xushaa meelo qurqurux badan fadhi hoteelo waaweyn asugu inta badan wuxuu xulan jiray meelaha dadka danyarta ah oo maaragtay ay ku nool yihiin oo aad noloshooda u hooseyso ani waxaan isleeyahay marka fariinta ay dirayso waxa waaye inuu muujiyo mataqaanaa fakhriga iyo niyad jabka iyo rajo la-aanta ay u sabab keenatay magaalowga ama urban poverty-ga iyo maqnaanshaha adeegii dawliga dabcan meelo dadku noloshooda aada u hooseyso baa dhammaan riwaayadiisa ku jiray ma arkaysid isagoo burca hoteelo fiican baa ku yaala intuu hoteeladaa tago ama fadhiyo ama guryo qurqurux badan la aaday meelaha dadka danyarta ama noloshooda hooseyso riwaayadaha inta badan afrika lagu jiro sidaas u badan yihiin marka dadka niyad jabka iyo fakhriga iyo noloshooda hooseysa iyo adeegii dawliga oo ka maqan baa moodaa inay fariinta ugu muhiimsan oo ku jirta ay yihiin themiska marka loo fiirsado ama mawaadiicda iyo fariimaha ay dirayaan riwaayadihiisu konton oo ku dhow yihiin baan isleeyahay mawduucyadu ka hadlayna aad bay u badan yihiin waxaa ka mid ah deegaanka musuqa qabyaalada arrimaha tusaalaan qoyska oo kale waxbarashada dumarka tacdiyada dumarka dhanka sinaan la-aanta ama mataqaanaa inequality-ga bulshada ka dhex jirta caqabadaha hortaagan horumarka mataqaanaa bulshada iyo dowladnimada aad bay u badan yihiin wuxuu ka sameeyey tahriibta ka mid ah waxaa ka mid ah jinka dhalinyarada mataqaanaa dhaqanka siduu isku bedel wax mawduucyadu aad bay u fara badan yihiin laakiin mawduucyadii aadka ugu soo noqnoqday riwaayadihiisa oo marar badan riwaayado badan uu ka sameeyey waxaa ugu muhiimsan maamul xumada iyo musuqa iyo qabyaaladda baa aada moodaa iyo dumarka tusaalaan kaalinta dumarka hadday noqon lahayd waxbarashada dumarka hadday noqon lahayd tacdiyada dumarka lagu hayo aad baa moodaa inay maaragtay ugu soo noqnoqonayaan haddaan wax yar ka yara taabto dabcan kuwii aniga isoo jiitay riwaayadda ugu xiisaha badan waa midda furashada ururada waa tii labaad tii saddexaad baan filaya inay tahay mise tii labaad dabcan xilligaas waxayd ku beegnay 2012 markii somaliland la ogolaaday in ururada la furto isaga iyo jawaan baa isku imaanaya marka ugu horeysa inay urur furtaan waxay ku keentay xaalad dhaqaale iyo duruuf ay ku jireen nimayo xaaladan aynu ku jirno waxa weeye dadku qaabo hore dadku waaga hore wax ku heli jireen qaabka hadda wax loogu heli jiray hadda wax lagu ma helo oo see wax lagu helaa waxa laga tagay qaab cusub baa lagu helaaye in fariis ay biyaha soo qaadanayaan ay halkaas ku sameynayaan ururkii marka la sameeyo loo sameynayo suldaankii maalinta ururka la furo ka khudbeyn lahaa waa sida caadiga ururada loo furto qofka mataqaanaa ama markii wax la sameynayo oday dhaqameed meesha ka khudbeeya markaas jawaan leeyahay ilaahay Nairobi baan tagayaa shir jaraa'id baan qabanayaa marka fariimo badan baa ku jira riwaayadda kuwa horta marka ujeedka furashada inuu danguud in looga shaqeeyo laakiin dana dhaqaale marka hore ama in lagu gaaro ay tahay isim beena la sameynayo waxyaalaha ugu xiiso badan oo fariinta ku jirta waxaa ka mid ah dabcan ururka marka la sameynayo ballanqaadka uu sameynayo wuxuu leeyahay ururkan cilmi baaris uu sameeyey wuxuu ku ogaaday magaalada ka duduma badanta inay ka biyo badanta waa cilmi baaris urur gaaray buu leeyahay marka reer walba uu magaalada dudunta ku taala lagu riday halkaas ka dhaansanaysa biyaha marka wuxuu ka sheekeynayaa sida ay maaragtay ballanqaadyada ay ururada ay u sameynayaan bulshada iyo sida ay maaragtay waaqaca uga fog tahay sidoo kale doorashooyinku aad bay ugu soo noqnoqonayaan riwaayadihiisa waxaa ka mid ah doorashada golaha deegaanka oo xilligaas dhacaysay canshuur dadka bulshada canshuur inta laga qaado waxba aan loogu qabanayn sooraan baa markaas wuxuu ku jilayaa asagoo inuu ka mid yahay golayaasha deegaanka xubin ka mid oo la doortay reerkii soo doorteen urur buu kasoo galay marka reerkii soo imaanay wuxuu leeyahay nimayahow ururkan ku jiray waxa weeye urur cusub baan rabaa inaan idinku daro la soo heshiiyey halkaasaan idinku daranayaa reerku ka muuqanayaa dabcan waa sida ay sameeyaan ragga siyaasiyiinta oo qabiiladooda hadba meel urura ururkan isagii baa dantiis ka waayay reerkii marka meeshu isagu dantiis ka arkay ururayaan marka wax xiiso leh waxay tahay riwaayadaas oo kale reerku markuu dadkan dawladda iyo dadka isbaranaynay marka teeranku daba wax idin qaban inta badan siyaasiyiinta sida ay yiraahdaan markaas la leeyahay anigu qof wax noo qabanayaan dooranaynaa teeranku horan oo kugu khasaarin mid loo kugu khasaarin mayno marka wuxuu leeyahay nimayahow
haddaad qof kala doorataan marka reerkiiba cabsi gelinayaa soo reerkana khariidada laga saari mayo aniga waxaan fahansan dowladda qof kaliya dowladda fahmi kara waxa aragtay aniga weeye dabcan riwaayadihiisa kala doorashooyin ku jira waxaa ka mid aad u xiiso badan riwaayad ay ka sameeyeen dabcan markii xilliyada doorashada la gaaro laba qof markii tusaale qof wax bartay iyo qof aan wax baran markay soo sharaxaan inay reeruhu u yimaadaan oo dhigayaan qof wax bartay nin adigu waxbaa baratay ninkaana reer ka biilanaya maaragtay isaga u daa markaasna lagu qanciyo ay tahay ujeedadu in qofka meesha tegaya inuu reer maaragtay uu ka biisho noloshiisa iyo biilkiisa halkaas maaragtay kala soo baxo ninkii kalena marka riwaayadda ninkii wax bartay loo yeerayo qabiilku asaga ku qancinaya maaragtay laaro ninkan adigu nin aqoon-yahan taa waa xishoonaysaa laakiin ninkan shir jaraa'id buu qabanayaa ayaan dhaweetay reerka nin laga xiray maaragtay asagaa u doodayay asagaa u hadlayay shir jaraa'id buu qabtay dowladda asagaa qof walba qofkii loo baahdo oo qabiilka wax ka sheega asagaa u jawaabaya marka riwaayaddaas waxay ka hadlayaysaa fariinta ugu muhiimsan wuxuu noqdinayaa dadka inta badan doorashada qabaaishu dirsadaan in la leeyahay qofkaas noloshiisa iyo meeluu ka reer ka biisho aysan rabin qof bulshada isdhihi karaan u adeegayaa marka wuxuu noqdinayaa waa dhinacaas ka fiirinayaa riwaayad kale isaguna waxaa ka mid ah oo laxda oo berigii dhaweyd horta waxaynu doorana muxuu ahaa lagu wareerayo wax qofkii la doortay meeluu ka baxay iyo meeluu ku dambeeyey iyo wuxuu dadka u qabtay markaas la leeyahay jawaano uu leeyahay nin ayaan tidhood waxaan doortay gabar iyo wiil waxa ayaan kala garanmaya buu leeyahay marka waxay ka hadlayaan qof inta reerkiisa iyo constituency-gu soo doorteen maalintii la doortay ugu dambeysay heer ay gaaraan war maxaad doorateen ay garan waayaan riwaayada waxa kale oo ka mid ah musuq oo kale riwaayado badan buu ka sameeyey waxaa jirta mid laba qof oo midna adeer u yahay midna macrifo yihiin ay ku kala jilayaan midku adeerku u yahay markuu isku yeerin kale isku mar shaqada biloobayaan kii adeerku u yimid baa markuu soo baxay uu leeyahay dowladda wax ma ka qabsata markaasuu leeyahay waxba kama qabsana waa anigaa ka lugeynaya markaasuu ku dhiiri sida marka dabcan wuxuu noqdinayaa waad aragteen qofku marka qof dad familiga shaqo helo dowladda waxaa lagula taliyaa wax ka qabsa dowladda marka nin wax ka qabsaday iyo mid wax ka qabsan ba fariinta ku jirtana ay tahay in maaragtay dowladnimada wuxuu noqdinayaa ay tahay in loo arko meel qofku inuu intuu tago guryo iyo hanti iyo ka samaysto kan kalena uu maaragtay marka labada qof dabcan fariintu iyo riwaayadda dhammaadkeedu fariinta ay dirayso ay tahay in qofka bulshada marka loo doorto ujeedku inuusan ahayn inuu daaro iyo guryo iyo hanti ka samaysto balse ay tahay inuu dadka u adeego qabyaalado kale aad bay ugu soo noqnoqotaa hadday noqon lahayd midda miyiga ka jirta oo qabka iyo xiniyaha iyo maaragtay uu leeyahay haddaan tolaay iraahdo riwaayad ka mida waxaa ku jirtay maaragtay rashid inta la dhangadeeyo tolaay iraahdo inta reerka uu soo ordo reer kale aad 300 qof ka dilaan maaragtay markaasaa laleeyahay nin xiniyahan iyo waxaana sheegaysa haddaynu dhinaca horumarka la aadno ka warano aynaan dadka dilin may taas dadku ka dhexeeya laakiin waa xiniyo qabiil fariintuna ay tahay noqdinay dadka wax maala yacni hal la dhangaday 300 qof waad aragteen maaragtay miyiga inta badan qabyaalada ka jirta dadku waxay ku dhintaa wax maala yacni noocaas waxa laga yaabaa 100 qof aanooyin ay sababtay hal la dhangadeeyay iyo wax la mid ah marka inta badan wuxuu noqdinayaa qabyaalada miyiga ka jirta ama sidoo kale midda magaalada la soo geliyay oo ah maaragtay reeraha waxaa jirta riwaayadu ka sameeyey qabaaisha mataqaanaa gaar ahaan somaliland oo kale xilligaa doorasha ka dhacaysay nin baa u imaanaya qolo kale u imaanaya wuxuu leeyahay sanadkan aniga qofaan noo sharaxan waxaan rabnaa inaad sanadkan idinka cidida kama sharaxna inaad noo codaysaan abaalna aad maaragtay kugu hayno xilligaa idinku aad soo sharaxdaan marka dabcan isbahaysiyada qabiilka iyo sida dowladnimada casriga iyo qabiilka isdiidooyinka jira dadku adeeg iyo dowladnimo iyo service bay raadinayaan haddana fikirka dadku uu noqdinayo waxa weeye in uu hankoodu iyo fikirkoodu uusan dhaafsisnayn in intaas uu maaragtay qabaaisha isku guuraya hadba isbahaysi la sameysanaya laakiin markaas danta guud iyo aad looga maaragtay fikirayn aad bay riwaayadiisa ugu soo noqdaan dabcan riwaayado kale fara badan baa jira tahriibka arxandara riwaayad la yiraahdo ku noqdinayo mataqaanaa dadka sunta iyo waxyaalaha dhacay cunada dhacday ama dawada dhacday dadka iibiya
markaas naqdigiisuna yahay akhlaaqda iyo qiyamka bulshada iyo siduu hoos ugu dhacay in dadka cuno dhacday iyo raashin dhacay laga iibiyo. riwaayadaha waxaan kusoo gabagabeynayaa dhowr riwaayadood oo waxaa jira aniga aada ii xisigeliya. waxaa ka mid a mid qof ay ka jireen oo kuwii ugu horreeya ah oo qofka marka inta la doorto oo xilka ka dego shaqo la-aan noqdo inuu noloshii caadiga ahayd uusan ku noqon, qofka uu shaqaysan waayo, waxba qabsan waayo, uu meelaha la fadhiista aan guddoomiye horaan ahaa, aan wasiir horaan ahaa, lagu kari waayo qof warkaala reerkaagii biilo. riwaayad ay ka sameeyeen. riwaayaddaas marka waxaa ku jirta mar uu xafiis dowlad imaanayo isagoo guddoomiye hore oo gobol ah la leeyahay meesha shir baa ka jira u kaadi, uu rabo inuu khasab ku galo, uu leeyahay anu guddoomiye horaan ah haddaa la isii deen magaalado dhan baa soo kicinayaa. dabcan waa aragteen dadka xilalka dowladda qabtaa privilege gaara, ama waxaan hadda haya xil baan hayaa ama maarata xil baan horey ugu soo qabtay inuu rabo in dad kale looga hormariyo. markaa boorsu wataa wuxuu leeyahay war waxaan wadan miyuusan laabtoob ahayn mandasiidiis iyo warqado, inuu dadka kaga duwan yahay oo maaragtay ka fiican yahay isagana la hormariyo. riwaayadaha kale oo xiisaabada waxaa ka mid a riwaayadda ay ka sameeyeen ilaa 4-5 riwaayadood oo ku saabsan hay-adaha. dabcan waddanka maaragtay tuulo kasta adeegii dowladda hay-ad baa haysa. marka riwaayadahaas mid ka mid a waxay ku saabsan tahay siminaarada ay hay-aduhu ka qabtaan magaalooyinka yaryar. dad gabar yar baa lasoo diraya 10 jira ilaalaa la socota, waxaa la leeyahay dad waaweyn baa wax baraysaan. marka waxa la barayo marka wax xiisaha leh oo siminaar ku saabsan yahay ba aada xiisa u leh. waxaan ka sheeganaya si dadka aan wax maala yacni inta dad waaweyn loogu yeero loo barayo. marka casharka la qaadanayo siminaarku waxa weeyaan leeyahay waraabuhu sidee ula dhaqmaa duurjoogta. casharkana maanta qaadana waxaa weeye waraabuhu sidii duurjoogta ula dhaqmo iyo waa maxay awrka hayinka xuquuqdiisu. marka wax iska maala yacni ah oo mataqaanaa oo aan dadka waxba tarayn iyo sida hay-aduhu ilaa 5 maarata 6 riwaayadood baan filayaa oo hay-adaha iyo sida ay bulshada maarata xubnaha aysan ugu qaban aysan aada waxaa riwaayadood sidoo kale kusoo noqdaa dhowr riwaayadood oo ku saabsan horumarkeena maxaa hortaagan ilaa 4-5 riwaayadood oo aada u xiiso badan ayaguna markaad u fiirsatid bugaagta maaragtay iyo dadka developmentka ka hadlaba runta ka xiiso badan sida uu ninkaas xeel dheer oo maarata farshaxanka sare u sameeyey uu u fahansan yahay sida xamdi sheegta isagoo nin remiyi ah waxbarasho iyo maarata badan aan lahayn aan iskuul badan soo marin haddana mashaakisha bulshada iyo horumar la-aanteeda iyo dowlad la-aanteeda sida riwaayadiisa uu riwaayaduhu sameeyey ay weliba dee sida farshaxan kale aqoon-yahan kasta hadduu maanta kusoo professor kasta fariinta uu sooraan gudbinayo maaragtay in maaragtay uusan gudbin karin. dabcan anaga waxa ugu muhiimsan waxa waaye riwaayadaha isha la rabo in lagu fiiriyo aysan qosol keliya ahayn laakiin ay tahay wax la rabo wacyigelin iyo mataqaanaa iyo bulshada mashaakisha ka jirta in maaragtay culumta sociologiga iyo dhan walba marka la fiiriyo bulshada waxaa riwaayadiisa waa laga dhexelayaa. waxaan u baahnaanaysaa dabcan riwaayad walba keligeed baa saacado u baahan in la gorfeeyo haddii la yiraahdo hal isdul taago. dabcan idinkaa dhalinyaro aragin culumta bulshada barta idinkaa la rabaa inaad riwaayada intaa dib ugu noqotaan bal aad gorfaysaan oo mid maaragtay u dul istaagtaan jirsi anagu hordhac iyo in maaragtay isha noocaas oo lagu fiiriyo in aysan qosol ahayn aqoon iyo mataqaanaa cilmi iyo fariimo waaweyn ay maaragtay riwaayaduhu soo gudbinayaan. riwaayadihiisa waxaa dhinac socon jiray wuxuu u bixiyay shir jaraa'id oo iyaguna aada u xiiso badnaa oo marka uu shirka jaraa'id u qaban wuxuu dhahaa hadda maalinla ama billa ama sanadla hadba saan u haleelo. midda marka aan kusoo gabgabeynay ugu xiisaha badan waxaa shir jaraa'id oo dabcan uu kaga hadlayo dadka siyaasiyiinta soomaalida iyo siday bulshada caqligooda ugu ciyaaraan. marka wuxuu leeyahay qofku waxaa laga yaabaa in markuu dowladda wax ka raadinayo qabiil iyo waxaas iyo ka hadlo markuu dowladda wax ka waayo marka wuxuu leeyahay dadka reerkiisu la hadlaya dowladda xil baan weydiisanayaa dowladda xilkaas haddii ay maaragtay siiso nimayo hadhow waxaa noo qabanaysaa iyo howlahaasa ila imaan aan waxba idiin qaban mayo laakiin dowladdu hadday xil ii magacaabi weydo isku kaaya keen aan wada buuqnay buu leeyahay. aada u mahadsantii. waa tahay
waxaa inoogu xigi doono haddii aynu intaas kaga gudubno mawduucan ay inoo soo jeedinayeen xamde iyo cabdi ciise waxay inoo xigi doonaa bal documentary yar oo aynu daawan doono documentarygaas oo isagana faahfaahin u noqon doona ama kab u noqon doona intii ay soo jeediyeen kadibna waxay inoogu xigi doono qayb martida ka mid ah ayaan waxaan siin doonaa ra'yi iyaga su-aalaha aada uma tixgelinayno oo su-aalaha caawa kale waxaa ka muhiimsan ra'yiga ka muhiimsan marka waxaynu wada sugaynaa documentaryga dhaxalka uu ka tegay abwaan sooraan waxa ay qayb ka tahay ama la gelin karaa waxa loo yaqaano suugaanta maadda oo ah in sheekooyinka nolosha loo tabiyo qaab qosol leh amaba ay dadku ay ku qoslaan sheekooyinkaasi oo ah kuwa la matelay amaba kuwa waaqica runta ah laga sheegayo laakiin loo tabinayo qaab jawaab celinta dadka dhegaysanaya ama daawanaya ay noqdaan inay ku qoslaan waxay noqon kartaa mid looga jeedo keliya taa in dadka laga qosliyo ama lagu farxad geliyo ama muudkooda lagu bedelo iyo qaar dhaliil ah oo naqdintii loo gudbiyo qaab kamaadsi ah oo dhaliilid maadaysan oo waxa af carabiga loo yaqaan al-adab saakhir ama suugaanta maadda dhaliisha wadata marka halkaas ayaa u gelaya dhaxalka sooraan suugaanta maadda oo runtii uu aad iyo aad ugu fiicnaa xagga matalaadda iyo jilidda iyo soo gudbintaba hibo gaar ah oo aanay lahayn dadka bartay amaba suugaanta bartay ee jaamacadaha uga soo baxay aanay lahayn ayaa uu lahaa ibraahim ismaaciil sugulle oo soomaalidu aad ugu taqaanay magaca sooraan door runtii muuqda oo qofkii ama arkay wax soo saarkiisa si uuna ugu soo gaadhay hadday noqotay heesihii waalifay majaajiladii kala duwanaa iyo qaabka wuxuu tabin jirayba uu markhaati ka yahay ayuu runtii reebay raad aan go-aynin oo waxa keliya bannaan ay tahay marka laga yimaado fariimaha uu gudbin jiray in maaragtay siday tahay wax laga barto waxaa barbar socotaa in loo aqoonsado in wixiisu ay ahaayeen cilmi ay tahay in la diiwaan geliyo oo lagu daydo oo runtii wax laga barto tusaale qaab farshaxanimo leh oo madadaalo leh ayaa wuxuu u gudbin jiray fariimaha markaa mushkiladda bulshada ka dhex jirta tusaale ahaan iyadoo lagu qoslaayo iyo haddana fariintu waa educative oo waxbay dadka barasa tusaale wuxuu ka hadlay halkudhigyada soo qaatay waxaa ka mid ahaa mid wixii aanu dooranay muxuu ahaa wuxuu kaga hadlayey oo nuxurkeedu ahaa soomaalidu in badan waxay mushkilad ku qabtaa in qof aanay aqoon badan u lahayn amaba siday moodayeen si aan ahayn isagoo ah amaba filashadiisa wax laga filan kara wax ka badan ay ka fisheen ayay marar badan dib iskaga qoomeenayaan si aanan moodahayn marka isagoo taas qaab madadaalada u baraaya ayaa wuxuu leeyahay wixii aanu dooranay horta muxuu ahaa waa fariin runtii aad u cajiiba saynu u fahanno sooraan waa inaynu dib ugu noqonno suugaanta maadda ama literary satire al-adab saakhir ama maadda suugaaneed taariikhdeeda waa laga hadlayaa hase yeeshee waxaan anigu taabanayaa waxay jirtay baa laga yaabaa inta dadku ay sheeko isku gudbinayeenba way jirtay suugaanta maaddu sidii qaybaha kale ee suugaantuba ay u jireen qayb ahaan waxay dhisantay intii qoraalka dadku ay u jahaysteen tusaale ahaan filosofka Greek ahaa Plato waxaa la weydiiyey sidee baan u fahmi karnaa bulshada reer Athens magaalada Athens bulshada degan maxaad nagu tan lahayd saan u fahanno inaan maxay sameeyno dadku waxay akhridaan riwaayadihii iyo masraxiyadihii Aristophanes gabigiisu wuxuu ahaa nin maadda u isticmaala si uu u matalo ama uga turjumo waaqaca bulshada marka Plato wuxuu nagu dhiirigelinayaa oo inoo muujinaya in si loo fahmo ummad meel degan suugaanteeda maadda in la darso siyaabo kala duwan baa loo isticmaali jiray berihii hore suugaanta maadda berihii hore waxaan ka wadaa nin baa muhiim ay tahay inaan xusno Anton Chekhov oo reer Ruushka oo dhammaantii qoraaladiisa oo dhan aad ugu adeegsaday agabkaas ah maadda dadka hal abuurka ah ee gaar ahaan filliga qaybta uu xooga badnaayay majaajiladu
sooraan aad bay u aqoonsan yihiin si guud marar kala duwan baan kala sheekaystay maxaa la dhahdaa saaxiibadii iyo dadkii ka horreeyeyba dhowr nin oo waxaa jira isagu runtii udubdhexaad oo noqonayo amaba marka iyaga la xusay isna la xusaayo dadkaasi iyo isaguba doorarkooda runtii wuxuu ahaa door baaris oo muuqda tusaale ahaan nin la odhan jiray daahir caaje iyo cunaaye iyo Soomaalidu waxay aad ugu taqaanay way kan haddana way kan odhaah noocaas u lahaan jiray iyo sooraan iyo waxay ahayd runtii in wuxuuda inta la diiwaan geliyo la cilmiyeeyo iskuuladana la geeyo runtii waa wax aad u cajiib marka isagu qaabkan laakiin uu isticmaalayee ah isagoo serious ah oo wax fariin culus gudbinaya ayaa haddana wuxuu u dhaqmayaa si qof normal oo caadi waxa uu hibo u lahaa in uu dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ama nolosha bulshada uu qaab maad ah uu soo gudbiyo amaba uu u jiro iyada oo maad iyo ku qosol u taala laakiin dhaliil toos ah مثلا waxaan soo qaadan karnaa siyaasadda waxa uu riwaayado taxana ah amaba maad ah uu ka metelay saddex xagalka nolosha nidaamka nolosha ee Soomaalida oo ah siyaasiga madax dhaqameedka iyo dadweynaha oo qaab ka maadsiya amaba maad dhaliil maadiyad uu soo gudbinayo مثلا waxaad u fiirsan kartaa marka uu metelayo siyaasiga isagoo oo meel bannaan iska fadhiya taasoo reality-ga yani qofka siyaasi isagoo waxba haynin uu kaliya uu iska hawaawiyay inuu siyaasi noqdo oo uu ummadda wax la hor yimaado marka riwaayadaasi qofka daawada bilowga halka ay ka bilaabayaan laba nin oo meel iska fadhiya oo qaylayo waxba aan haynin oo mar kaliya ku soo dhacayso in ay siyaasi iyo noqdaan ma garanaysaa iyo waxay marka dambe waxay u baahanayaan inay oday beeleed iyo odaygii sida u sameynayaan iyo dadkii dhageysanayay sida ay u helayaan waxaasoo dhanba yani waa dhaliil toos ah oo ku socota saddex xagalkaasi siyaasiga madax dhaqameedka iyo dadweynaha bulshada oo uu toos u soo gudbiyey riwaayadiisa mid ka mid ah wuxuu metelayaa inuu nin u wado urur siyaasadeed cusub inay ninkaa xil u magacaabaan wuxuu odhanayaa ninkan maxaad doonaysaan inaad ii magacaabno wuxuu doonaya wuxuu odhanaya waxaan rabaa in ninkan uu inoo qaabilo dhanka cayda inuu dadka caayo weliba qof ku caaya ma dhalo ayuu odhanaya markaa wuu la yaabayaa mas-uulkii xisbi ururka haystay hadalka ninka weyn leeyahaa dee qof noogu shaqaalaysa in dadka caayo sooraan markaa wuxuu isticmaalayaa erey aad inooga qoslinaya laakiin gebi ahaanba ka soo horjeeda ereyga uu isticmaalay hore cayda ahaa wuxuu odhanayaa maya saad mooday ma aha waxaad noo dhiibaysaa qaybta wacyigelinta ayaad noo dhiibaysaa halkaa waxaa ku jirta ismageydo ereyga cay oo dhan ah iyo ereyga wacyigelin oo dhan ah markaynu qoslayno waynu fakerayna waxaan ka fakerayna labada wax maxaa iska galay sooraan muxuu rabaa inuu dareensiiyo waayo maaddu ama suugaanta maadda ah waxay dhab ahaan u leedahay qiimaha iyo koranaanta waxay u leedahay inay sawir dhab ah ka bixinayso cidda bulshadaasi cidda loo matelayo cidda matelaysa iyo cidda daawatada ah intaba innaga daawanayna waa iska dhex arkayna bulshadeena waxa hareerna ka dhacay baan ka dhex arkaynaa markaynu u fiirsanno oo riwaayadaha ama masraxiyadaha gaagaaban ee sooraan iyo jawaan ku saabsan siyaasadda markay u fiirsanno tani ka mid tahay waxaa ka buuxa agabkaas baa ka buuxa nafsad ahaan haddii uu si qayaxan inoo odhan lahaa hay-adaha wacyigelinta qaabilsan waxa ma qabtaan ee waxay ka shaqeeyaan in iscaayo waxa laga yaabaa in lagu kala duwanaan lahaa sida looga falcelinayo hase yeeshee si uu inaga qoslinayo isagoo inaga qoslinayo oo soo raacaya dareenkaas kilaankilada ah ayuu agabkaas u adeegsanaya ayuu rabaa inuu naqdiyo marka qofka maadeynaya waxa weeyaan waa qof isla markii naqdinaya xaaladda bulsheed siyaasadeed dhaqameed iyo waayaha ku gadaaman ummadaas uu rabo inuu ku soo bandhigo wax soo saarkiisa maadda ah sooraan riwaayadihiisii iyo maaragtay majaajiladii kala duwanaa iyo halkudhagyada gaagaabnaaba intuba waxay noqon karaan kuwa waxna waa laga bartay xaqiiq oo bulshada aad bay ugu faaftay caqliga bini'aadamkuna inta badan ma qaato waxaan maaragtay nuxur u gudbin ama aan fariin gudbinayn hadduu qaatana si fudud buu ilaabaa laakiin sooraan fariimihiisa iyo halkudhagyadiisa waad aragtay Soomaalida aad bay u isticmaalaan waa lagu kaftamaa laakiin kaftanka iyo majaajilada waxa dheer waa fariin xambaarsan xogtaas waxa weeyaan ama waxbay dhiirigelinaysaa amaba waxbay sheegaysaa in qaab dhaqanka bulshada oo isticmaasha si aan ahayn ay ka habboonta
tusaale ahaan riwaayadihiisa oo kale riwaayadihii uu alifay isaga iyo kooxdiisii waxaa ka mid ah mid uu kaga hadlayo in dadku gaar ahaan caruurta ama bulshada Soomaalida si guud kuma baraarugsanaa inaan la dhibaataynin xayawaanka iyo noolaha la nool marka riwaayad aad u cajiiba oo la yiraahdo maaragtay ilaahay ummadiisa u amaan gali oo fariin noocaas ah waxa jirta uu aad runtii qofkii daawada fariina uu ka qaadanaya midadaalo xoogna waa keenaya بالمثل صار عم حكى هلا وعي قلين يو سياسة بوك هلا هسه شيء وحوجه هلا وحوصل بندقية وحنقدنا يو سقص له وحوصل بندقية هل كانت سمكها كترتها مهمة دوين إنه أي ولاية هي قفصة صوران يا شوان يتكلمت كعا قفصة صور استعمالية أجاب خاص قصة كاهي اسكمد معها دودان تصالح عن مركو قبل قلالن أخري قرنقص تصالح عن أخري qofkii mowqifkiisaas waafaqsan oo kaliya ayaa u garaabaya markuu leeyahay markuu gabayga ganacsi akhriyo tusaaha laakiin markuu jacbur akhriyo isagoo isla xaaladii wax uu ka hadlaya jacburka oo akhriya maadaama uu dadka mid diidan iyo mid ogolba ka qoslinayo qaab la ogol yahayna uga hadlayo yani qosolku waa waxaan umad qofna diidi karin kali taliyo ma diidi karo oo wadaadku ma diidi karo oo ganacsaduhu ma diidi karo waa dadku waa iska qoslaan wax ka qosliyada arkaan laakiin haddii hadalku qalalan yahay qofku iska dhax arkaya marka tiraado ganacsado ama siyaasiyo waxaasad ku xun tahay uu iska dhax arkaya laakiin adigoo siyaasiyo ganacsado la soo hadal qaadin marka si qosol arrinta loo soo bandhigo arrintiina way ka turjumaysaa isla markaana si maad leh oo aan la isku qoonsanaynin halkaan u socdo halkaas ayay u soo bandhigaysaa sheekooyin fara badan oo uu ku metelay filimadu sameeyay iyo daraamooyinkii masraxa ee uu sameyn jiray ayaa runtii waxa ay ahaayeen qaabka ugu wanaagsan ee uu qof u tabin karo sheekooyinka nolosha iyada oo maad ah oo dhaliil toosana ah hiba gaar ayuu lahaa waxa horta nasiib wanaag ah taariikhdiisii iyo wax soo saarkiisii inkastoo mar hore soo bilaabmay laakiin intan aadka loogu baraarugay dambe waana duuban yihiin dadka badankoodana waa ka markhaati gaar ahaan jiilkani marka taariikhdiisu waxay kaga nasiib badan taariikh badan oo kale waa taariikhan weli libdhin oo muuqata marka hadda inta fahamsan oo intay daba galaan kadibna waxna laga barto dadka kale ee filligan majaajilada ku jiraan wax ka bartaan si guudna waa cilmi xaqiiq dadku waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga aqoonta u sarreysay uu leeyahay waa taysay ka tarjumas hadday noqoto suugaan hadday noqoto qaab fikir qaab nololeed wixii isaga ka tarjumaya qof kasta aqoon ah iyo dhaqan marka waxay la tahay in sooraan in la darso oo la cilmiyeeyo oo maaragtay isiyada cilmi ahaan loo aqoonsado waa wax runtii in anfacaysa jiilkan hadda joogay iyo kuwa ku xigaba waxaan isweydiiyaa markan daawado oo aan isweydiiyo haddii uu aqoon u lahaan lahay soo baran lahaa aqoon barasho oo jaamacad looga soo baxo haddana waxaan isugu jawaabaa in aanay sooraan oo kale ama qof sooraan oo kale ah aqoon suugaaneed oo jaamacadeed aanay isaga wax badan kala maqnayn waxa waa qof mawduucan ku caqli badnidaasoo ka muuqatay arrintan oo kale waxay u baahan tahay qofku inuu leeyahay dhugasho aad u sarreysa oo uu ku fahmo dhacdooyinka nolosha hareerihiisa ka dhacaya inuu qofku soo gudbiyo oo bulshada u soo gudbiyana waxay u baahan tahay caqli badni kale oo dheeraad ah inuu qaab maadoo lagu qoslo u soo gudbiyana waxay u baahan tahay caqli badni kale oo dheeraad ah intaas waa uu lahaa waxaan filayaa in fara badan oo idinka mid ah aad ka bogateen soo jeedintii ay inoo sameeyeen xamdi cigaal iyo cabdi ciise iyo documentary-ga aynu halka ku daawanay sidoo kale waxaa hubaala in fara badan oo inaga mid ah inaynan angalkaa wax ka fiirin ama aynan ku baraarugsanayn in mawduuc cilmi ah oo meesha ku jiray waa laba qodob oo aynu dhammaantiin hadda ku wada baraarugnay sidoo kale ardayda halka fadhida intooda badan waa arday u badan social science inay barteen ama economics ha barteen ama sharci ha barteen ama social work ha barteen waa arday social science barteen marka arrinta mudnaanta mudan waxa weeye in
inteena wax baratay oo social science ka baratay aynu u fikirno si ka duwan inta kale ee bulshada ama social science-ka aan aqoonta u lahayn amaba bulshada caadiga ah ee maxaan ku iraahdaa aqoontoodu level dhexe ay tahay ma doorbidayno in aynu wax su'aalo ah halka iska weydiino maxaa yeelay su'aaluhu inta badan hadda wax fara badan ma soo kordhinayaan in labada martida ah halka inoo fadhiya aynu wax weydiino waxaa ka mudan laakiin si su'aalaha madaxaaga ka guuxaya inaad adigu bal assignment inta u qaadatid aad aqoon ahaan bal usoo bandhigtid marka waxaan doorbidayaa martida 5 qof oo ka mida in ilaa iyo 6 qof hadba intii aan karno inaan ra'yi siiyo qof walbaana uu waqtiga aad u ilaaliyo 2 daqiiqo 3 daqiiqo hadalkiisa uu soo koobo maxaa yeelay hadal nin badiyeyna ma wada oran nin soo gaabiyeyna kama wada tegin dadka martida aan hadalka siinayo waxaan ugu horeysiinayaa cabdiqani xasan oo nala fadhiya cabdiqani soo dhawo okay so waxaan rabaa horta inaan akhyaarta inoo soo jeedisay caawa panelka kan oo runtii diyaar sooraan waan iska daawan jirnay uuna bal si cilmiya inaynu isu weydiino waxyaabihii transka inooga tegay iyo macnihiisa waxaan runtii aad baa looga hadlay sooraan iyo roolku inoogu jiray waxaan ku dari lahaa uun riwaayadaha sooraan inay leeyihiin qiime runtii perennial value waxa la dhaho afka ingiriisiga oo ah qiime jiraya oo waqtiga isla bedeleen arrimaha uu ka hadlayay musuqmaasuqa dowlad xumada qabyaaladda waxyaabahaas oo dhan waa wax ilaa maanta taagan berina taagnaanaya waqtiyada soo socdana kulli jiraya marka dhankaa laga fiiriyo runtii sooraan waa zaman male runtii riwaayadiisu marka waxyaabaha aan anigu hadda soo jeedin lahaa runtii waxa weeye in si cilmiyana loo daraaseeyo ugu yaraan bal aynu inag laftigan wax iska weydiino dib isaga weydiino oo tani bilow u tahay iyo in riwaayadihiisu aad bay u filiqsan yihiin hadda saan arkayo oo way filiqsan yihiin bal in dib la isugu ururiyo oo loo sameeyo marka teams oo dib dadka bulshada dib loogu soo celiyo circulationka oo laga faa'iidaysto runtii wax badan bay bulshada u taraysaa wacyigeeda iyo inay wax iska weydiiyaan arrimahaas oo dhan marka akhyaartana waan u mahadnaqayaa aad badan mahadsantahay waxaan sidoo kale ra'yi siinayaa aadan badiic oo isna halkaa fadhiya بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo social science forum iyo astaan tv oo runtii barnaamijkan quruxda badan agaasimkiisa lahaa si gaara astaan waxaan ugu mahad celinayaa in ay wacyiga runtii bulshada oo warbaahintu maadaama ay tahay meelaha ugu muhiimsan laga dhiso bulshooyinka inay mar walba ay hormuud u tahay barnaamijtaas intaas kadib runtii mawduucan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa xamdi cigaal iyo cabdi ciise oo koobid qurux badan u sameeyey dhinac cilmi ahaana ina ka tusay riwaayadihii sooraan runtii aniga shakhsiyan wuxuu ii ahaa macallin aan si fiican aan u daawado casharka ugu weyn oo uu gudbinayay waxaan aaminsanahay inuu ahaa cashar bulshada laga rabo inay yeelato inuu isagu macallin u ahaa bulshadiina uu isagu mataliyay keligu ummadu ahaa casharkaas wuxuu ahaa waxa loo yaqaan alwacyu naqdi ama bulshadu inay yeelato wacyi naqdineed bulshadu inaysan wax kasta iska qaadan siyaasi ka qaadan ganacsade ka qaadan wadaadka ka qaadan balse ay su'aal iska weydiiso mar walbana waxay ka turjumaysaa taasi wacyiga bulshadu meeshay taagan tahay gaar ahaan aniga waxa si gaara ii saameyn jiray runtii oo xitaa marjic ahaan aan qoraaladeeda u qaadan jiray waxaa ka mid ahaa wacyiga siyaasadeed ee bulshada soomaalida guud ahaan markii la isku daro wuxuu marayaa meel aad u liita runtii riwaayadihiisana waxa ugu badan ku hadli jiray waxay ahayd wacyiga siyaasadda iyo bulshadu meesha ay ka joogto waxa tusaale waa in siyaasadda bulshadu ay u taqaanba meel laga xoolaysto
laga naqaysto musuqmaasuqa wax iska caadiya waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid ah wacyiga bulshada Soomaalida inuu liito oo Sooraana mar walba ka hadli jiray waxaa ka mid ahaa doorashooyin ugu dambeeyay oo 19 inay ahayd baan u maleynayaa ka dhacay meel gobolada ka mid ah Soomaaliya baan in musharaxa waxa uu ku campaign gareynay waxaan sameyn doonaa haddii ay doorataan in aan guri walba aan mushahar u qoro Kuwait yar buu hadalkaas soo qaatay wixii Kuwait yar baan ka dhigaya gobolka يعني dad ninkaasi waa nin musharaxa bulshu raba in wax u sheego miilis waxa waaye ninka musharaxa u maleyn maayo haddii uu og yahay wacyiga bulshadan inuu intaan dhaamo in waxa la soo istaagi lahaa runtii wuxuu ahaa macallin baan dhihi karaa Sooraan wacyigaasna wuxuu u baahan yahay in laga haro uma baahna waxaan talo ku soo jeedinayaa oo runtii aniguna aan qayb ka noqon karaa waxay tahay waayo waa shaqo guud oo bulsheed in Sooraan riwaayadihiisii jawaan oo runtii ahaa nin aad uga agdhow ayaa nool maantana waxa laga heli karaa xog badan iyo sababaha ay u yimaadeen iyo ajandaha rasmiga oo ka dambeeyay riwaayadahaas oo dhan maadaama ha qofka ugu badan oo sameynayay marka waxaan dhihi lahaa in qalin loo qaato oo la ururiyo oo fahamkii maada ahayd waan aragnay fahamka iyo fariimaha macnawiga oo xambaarsanaa la ururiyaan soo jeedin lahaa وانا ما هسنتين واتاي waxaan ku xishinayaa Caasho Cabdi Casiir oo iyadana aan isleeyahay ra'iisi waa inanta gadaal jirta dad soo yar dhawaan lahayd السلام عليكم ميعي وعاشا عبد العسير waxaa ku faraxsanahay inaan soo galo barnaamijkan waxaan u mahadcelinayaa social science forum iyo Astaan TV oo ka qayb qaateen inay barnaamijkan u taabageliyo السلام عليكم ميعي وعاشا عبد العسير waa ku faraxsanahay inaan soo qayb galo barnaamijkan waxaan u mahadcelinayaa social science forum iyo Astaan TV waxaana committee waxay tahay in riwaayadda ay tahay qisadaas oo ah aniga waxaan actor ka tahay wax oo ku maadeysano ama funny laakiin qisa waliba waxay tahay wax jira ama wacyi in bulshada ay ka bedesho wacyi hadda sida riwaayadda oo dad gabdhaha ودهاي صورة إلى ونحرسته إن جبنا أذنين العكاد بحنايو لكن واحد برشة حكومة ترسو وعيجز إلا هادو حق مثلا دت كينا وقار كم ده مسيهين إن جبنا أجوكتو إن العقل جب بحيو إذن إهين إن إيد وحقبسته ما سنتي واتا واتا وحن كلو رئيسي دونا waxaan ku soo gabagabeyn doonaa inankan gacanta ay taaganaya iyo ar oo fiqi inanka ay sim garfoon inankaas qof walba waqtiga inoo ilaaliyo waa habeen wanaagsan anigu waxaan ku darsanayaa horta magacaygu waa Maxamed waxaan ku darsanayaa faallo kooban oo aan aadna u sii dheerayn xuska riwaayadaha Sooraan ee ku aadan naqdinta bulshada Sooraan hadda waxa uu sii mootan yahay sanad iyo 2 bilood maalintii uu dhintay maanta ayaa u xigta hadalhayntiisa meel lagu hadlayo aan maqlo ama aan ka qayb galo marka dadka maxaa la waxtarka inoo leh bulshada sida Sooraan oo kale ku soo kordhinaya waxyaabo ka qayb qaadanaya korinkooda wacyi in markasta la xasuusnaado oo sidan oo kale loogu sameeyo bandhigyo la nooca oo lagu xusayo ama dadka lagu sii barayo wax soo saarkoodii aad bay u wanaagsan tahay
aabbahayba ayaa aad u jeclaa sooraan maalin kasta ama mar kasta uu firaaqo helo wuxuu daawan jiray riwaayadaha sooraan isaga shakhsiyadiisa ayuu aad runtii ugu bogi jiray sooraanna wuxuu ahaa maskaxda mar kasta ka dambeysa riwaayadaha quruxda badan ee soo gaadha sooraan oraahyada aan aadka uga sii helo waxaa ka mid ah marka uu kusoo baxayo ninka qoriga sita marka jawaan qori sita uu ku odhanayo marka qolamaad tahay oo ma horta saas uu eegaya markaasuu ku odhanaya maxaad naga eegaysaa markaasuu odhanaya waxba oo deedna markaasaa odhanaya qolamaad tahay markaasay dadkeenu dee qofka ay ka shakiyaan ay markaaba u weydiiyaan reerkooda ama meeshuu kasoo jeedo marka wuxuu odhanayaa horta wuu yar gabagabalaynayayo markaasuu odhanayaa adigu qolamaad rabtay aan kudhahda meyihiin marka waxa weeyaan waa erey badbaado ah markaas si loo eego sooyaalkiisii ama xilliguu kusoo biiray fankana waqti aad u horeysa kusoo biiray oo waxa weeyaan 1979 waa waqti aad u fog waxa meesha ka saaray ama waxaan idhaha la qarsoomay waqtigii kala haadkii dagaaladii sokeeye wuxuu haddana markaa dib usoo muuqday waxa weeyaan 12 siduu inoo sheegay cabdi ciise riwaayadiisa ugu caansanna waxa weeyaan anigu horta waxaan qabaa inay tahay tijinka oo ay dadku aad ugu barteen saaxiibkiisa hore anna waxay isbarteen 2003 marka waxaan kusoo gunaanadayaa sooraan oo kale ma aha dadka ay tahay in si fudud lagu ilaawo dadka waxaan dhegeysanay documentaryga wuxuu guudcadda sheegayay in qosalka aanay cidna diidin ilaa kalitaliyaasha ilaa cid kasta sooraan oo kalena wuxuu dee ku noolaa Somaliland oo dee Hargeyland magaranaysa dadka ay ku yar anaysaan marka haddii dee aanay jirteen arrintaasina waxaan qabaa inuu aad u badin lahaa riwaayadaha noocaas sida tii waxaynu dooran marka intaas baan kusoo gabagabeynayaa aad baan hay Ilyasna xaggaasuu gacan ka taaganayaa dadku waa soo badanayaan bal arow fiqina waan siinayaa idinkana waan idin siinayaa sidoo kale su-aalahana bal waan yar furanaynaa si aynu dood uga dhigano بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صاحبته aad u baahan yihiin Cabdi Ciise iyo Xamda iyo aqyaarta kale documentary ka soo muuqatayba anu waxaan rabaa qodobaan aan laga hadlin inaan ka hadlo wax badan baa laga hadlay horta ugu horeyn haddaan rabno inaan sooraan ka hadalno waxa weeye inaan ka hadalno shaqadii uu hayay shaqo faneed bay ahayd fankana shaqadiisu waa laba qodob uun sida ay hiban nuura heesteeda noogu sheegtay dadweynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa يعني فنكو هساوين يا هنونين لبدانا صوران ويكموقتي هوشي وهي صوران مركان كلاب لابلين إن فنكا سياسي ما حين ننكو سلطان فنكا كل وضعين ما حين إن مدح هذا مدحيوين تلو صعبتهم ومدح الله روح ما حين وحو كسو قال حاجة فنكا سياسي فنكا معارض أما فنكا ليش أما نقد جاي وحاجة وحتو سنة صوران هوشي وهي أيها بريسة إنك بدن أنت أنا ربنا أن مدبرنا فنكا رواية سمينتا أو هوس جريا سقوط دلد سوغانتا مركي واحد قد بينا يوحو قد بيا لا وقت بنبو قد بيا وردارين قد بيا مرة فكرة قد بيا مركي قد بنتا واحد قد بينا يو waxaa lagu kala xariifsan yahay sida loo gudbinayo ama farshaxanka lagu gudbinayo sooraan waxa aan oran karo uu ku soo raanoobay ama sooraan buu ku noqday oo uu kaga sheegan yahay inta kale fanka sheegata fanku kaliya maaha midka music iyo xataa jilin kale waxa weeyaan inuu farshaxan gudbineed oo uu la gaar lahaa waan oran karnaa yacni model cusub buu kusoo kordhiyey fanka jilinka Soomaalida waxa kaloo aan ka warrami karaa sooraan waxa uu ku suntan yahay inaan iraano iskii uu ahaa industry hadday noqoto directing hadday noqoto film writing hadday noqoto charactering in wixii la jiro hadday noqoto marka wuxuu ahaa
warshad isu dhammaystiran. ugu dambeyntii fanka waxaan ku tilmaami karnaa inuu yahay muraayadda ay bulshadu iska daawato. muraayadda wuxuunbaa laga arkaa sida ay bulshadu tahay. in badan baa lagu soo celceliyey oo cabdi ciise uu ka hadlay yani in riwaayadihiisa lagu arkay meela duusan oo qaraabada inuu ku jiray isagoo raba inuu muujiyo sawirka ay bulshadu ku nooshahay. marka fanku hadduu muraayad yahay bulshaduna waxa weeyaan waa wejigii muraayadda lagu eegayay. so muraayadda lagama arki karo weji qurxoon haddaan wejigu qurxoonayn. marka muraayadda haddaad qurxiso tirtirto wejiguna aanu nadiif ahayn muraayaddu wuxuun bay muujinaysaa wejigii. marka bulshada ayay tahay in la hagaajiyo oo hanuuninta la qaato dib loogu noqdo oo iyadii ay dib isugu noqoto oo fanka naqdinta ah ay qaadato. ugu dambeyntii waxaan kaloo ka fiirin karnaa riwaayadaha sooraan in afka ay hudminayeen aanu kaga faa'iidaysan karno. sidee bay ku hudmiyeen baan isweydiin karnaa. horta ugu horreyn waxay ku hudmiyeen fanka wuxuu kusoo kordhiyey afka sarbeebo cusub. nagala tag laxnimada oo kale moogta oo doqonnimada nagala tag oo kale lagu fasiran karo. idomiska sarbeebta bulshadu kaalin weyn bay ugu jirtaa. marka tafaasiisha way badan kartaa laakiin waxaanu isla qirsannahay inuu sooraan ahaa industry gaara oo model cusub soo kordhiyey. marka waddadii hore la maraya in fanka sooraan la cilmiyeeyo uu cilmiyeysan yahay discovery lagu sameeyo oo la kala abaabuliyo. wallahu yaclam. inanka ka dambeysay qof walba ha ku dadaalo xogtiisa inuu aada u soo koobo. أولا السلام عليكم. مركز روح السلام يا كورم كسوشيال ساينس فورم. مركز حكتو حن سلام يا داديهياش برنامج كحمد عقال إيو عبد عيسى. مركز انت حكتو حن سلام يا أستان تيفي وإن مرتون هاي أستان وحلقو حصا أما أي سوق ليسي أما أي سوق ليسي dhaqamadii hore ama culturalkii hore heesihii hore qaabkii loo soo cusboonaysiiyey. iminkana waxaa taagan oo ka bannaan oo boos weyn nagu soo baxay sooraan booskii nagu baneeyey. sooraan wuxuu horta ahaa jaamacad weyn. jaamacaddaasoo fakaltiyo badan bixin jirtay. fakaltiyada waxaa ka mid ahayd waxaan ka xasuustaa markuu soo baxayay dhuxusha oo kale riwaayaddii dhuxusha oo la ilaaway. markaa tii waxaan filayaa inay ka horreysay xisbiyada. dhuxusha waxay ahayd oo markuu soo turjumayo soo matalayo wuxuu ka matalayay duurka magaalo kama matalayn. dhar jecjeexan buu soo qaadanayay dharkuu ka gubanayay isagu kama u noolayn balwad buu ku bedelanayay lacagtu soo qaado deegaankii. dhuxusha dee meelo un gaara kama koobnee sida dadka lagu dacaayadayna waxa la dhahaa deemanta madow. markaa laakiinse iminka wacyigelin weyn buu ka bixiyo deegaano badan ayuu ka wacyigelinta ka jeedinayay somaliland kuma koobnayn. waxaan kusoo gabagabeynaya inaana hadalka dheeraynayn. sooraan wuxuu noo baneeyey boos weyn. booskaasoo weyn uu baneeyey dadkan bartay weliba social scienceska. markaa waxaan filayaa in la cilmiyeeyo oo waxaa taagan dhacdooyin nagu soo biiray sida balwadda soo biirtay oo kale dhaqamaad aynu lahaan jirno soo biiray. marka in la cilmiyeeyo oo daraasad laga sameeyo booskaasina astaan buu ku bannaan yahay oo maadaamay dib u soo cusboonaysiisay heesihii oo dadkii hadda laga jecel yahay heesahan caadi loo xameeyo ama caadi loo baalkeeyo ama iidheh ah recordingka dib loo duubo sida liveka loo jecel yahay. markaa waxaan dhihi karaa astaan waxaa idinku soo banaanaaday booskan ah in si cilmiyeysan aad u bandhigtaan. oo minkoo kale muqdisho waxaa ka jirtaa balwadda oo kusoo badanaysa dhalinyaradii iskuulka iyo kuwii da-yarta ahayd oo balwaddii xoog u isticmaalaysa. markaa haddii riwaayad laga matalo oo wacyigelin laga sameeyo malaha awareness bay u noqon lahayd. markaa waxaan kusoo gaabin lahaa aynu faatixada u marna caawa wuu naga hooseeyaa. insha allahu waxaan filaya in lagu soo gebagabeyn doono ducada iyo bahalkii soo jeedintiisa. markaa sooraan aynu dib
u xusno inagama u tegin waynala joogaa maadaamii waraahihiis iyo hadalladiisa inala joogaan wasalaamu calaykum haye Ilyas soo dhow su-aaluhu waa inoo furan yihiin Ilyas markuu ka baxo su-aalaha waa inoo furan yihiin qof iyo laba iyo saddexba su-aalaha waa isweydiin doonaa kadibna waynu gabagabaysan doonaa mawduuceena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلام يا دمانتين إلياس محمد حسين بالله موضوع مهم بحمد عقال إيو عبد العيسى إبو فرن عاوة أنا كل هران ما يهران لوجه هذي مهم ده رواية صوران إيو قابو كردون وبرشدة دبتوين كهيستا وصوب بندقي ونقدي وحن ونحوشنا يا ثلاثة إن aan ka hadal lagu joogin ninkaas riwaayadiisa Allah uu naxariistay inta dib loo baaro wax laga qoro waxaan filayaa arday badan baa joogta halkan oo social science iyo barata hadda oo ku guda jirta ama dhamaynaysa jaamacadaha marka iyagana waxaan u soo jeedinayaa in intii ay mawduuca buugooda kaga qori lahaayeen waxaan aad inoo khuseyn ama bulshooyin kale aad uga hadleen ama haysta inay xisaabta ku darsadaan in dissertation-kooda ama buugga jaamacadda qalinjabinta ay ka qoraan mawduucan muhiimka ah sooraan iyo riwaayadihiisa iyo qaababka iyo siyaabaha kala duwan uu naqdiyay waaqac bulshadana la nooshahay inta marka laga yimaado anaa su'aalaha iba furaya xamde cigaal iyo cabdi ciise baa la hadal hayay meesha aqoonyahan kala fadhida oo ayaan inkastoo soo kacday marka iyadaan bisaashu weydiin lahaa iyadiina waa soo kacday ayaan waxa weydiin lahaa inay sooraan riwaayadihiisa daawatay in kale ayaan hay su'aal bal sooraan weliga ma daawatay riwaayadaha sooraan ma daawatay وما صنت يا قوي جواب في عمك هي يا سؤال قبا هي كو هي يا كله لابو صدح هي صدح صوت ديسني ويلكس اوت هاي انت ايوه عدس بسم الله الرحمن الرحيم aqoonyahanka meesha jooga oo ayaan yirisay gabadhan abtiga waxay ugu horeyso waxaan ku dar lahaa Cumar Baashe iyo ninkii macallinkii dugsiga ka soo bilaabay shaqooyinkiisa nolosha indhaholac iyo maxaan ku raahdaa rag kale badan baa fadhiya oo ay ahayd in mawduucan inta dhalinyarada ay ahayd wax badan inay dhageystaan oo annagoo kala ah laga hadashiin lahaa in iyaga ay burqadaan oo wax ka sheegaan bay ahayd magacaygu waa Tuweec maxaan ku dhahdaa inta aanan gelin su'aasha ustaadiga waan ka xumahay markii hore aad madax taabasho ku bilowday waxaan islahaa dadka uu yaqaano buu jaanis siin doonaa marka تعليق يربان راعينا يا مركو هورين تانا سؤال شقلين صاران الله يرحمه مركو كوادحوها أبوان وحا كلوها فنان ورنتي انت دي مركي شيكوين لعورينا يوقف حال أبور لا او سوغان تفهم كهيستون با وحورين كرا مركا وحوها نين وحوريا او حال أبور كيسو وقارسيسي هاي هير يساقو فكر ككل شاء وصابا نيجي كرو marka labaadna wuxuu ahaa fanaan oo dabcan heesa uu ku luuqeynayay iyo gabayo iyo maxaan ku raahdaa habgudbinta qofka ku wanaagsan not only heesta yani waxyaabaha la soo jeedinayo qofka sida qurux badan u sheegi kara waxa la yiraahdaa fanaan marka sidoo kale fanaan buu ahaa waxbarashada sideedaba midda la maqlo cusurtan hadda la joogo waxa ka saameyn badan ta la arko tusaale wuxuu sooraan soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in wax bulshada haysta la fasiro oo la soo gudbiyo yani sida ay waxbarashada kale ee dugsiyada loo aado uga muhiimsan tahay waxaad ogtihiin khaabi oo maalmo dheer la hadal hayay nin hadla ma aha laakiin waa nin
dhaqdhaqaaqa bulshada ka dhex socda si aan hadal ahayn oo sawir ahoo muuqaala usoo gudbiya waxaad arkaysaan isagoo intuu shay saa u eego uu dabeetana gacmaha saa u taago uu yidhaahdo oo dabeetana kaa quslinaysa haddana aad saameynteeda arkayso masalan wuxuu soo qaadanayaa koob nin coronaviruska bahalka afka lagu xidho afdaboolka ah intuu saa dhegta uga geliyo jebinaya dhegtii si uu bahalkii uga soo saaro markaasuu intuu isagu soo qaato tartiib ka siibo ayuu ku leeyahay bal eeg yacni doqon baa qofkani sooraano sidaasoo kale ayuu darsi muuqda ugu dhigayay bulshada master bean baa isna la mid ahaayoo sidaasoo kale isagoon hadlin bulshada wuxuu soo gudbiyaa marka dadka noocaasi waa qaamuus runtii iyo waa yani waa hanti ay tahay in la ilaashado oo waxa ay sameeyaan bulshada loogu soo celceliyo si jiilasha dambe ay u gaadhaan si kooban sooraan wuxuu ahaa mudarib يعني معلم برا برشة السيدة أي أنور عن هاي أنت تعليق مركز كوب بسؤال أنا شيء يو حنقول هذا حتى كودي كجواب كرا يعني وحوي سؤال شو فهم كينا سيدة دتك صوران أو قراءة أو برشة كوتشرو داير تاع لو كيني كرا هير أي جالسين كران waxa ku jira hibada faneed ama hibada hal abuur ama riwaayadaha ama yani kartida ku jirta dhammaan dadka wax daawado oo dhan yani heer cashirkoodaasi uu meel fog gaadho iyadoo si casriyeysan oo masraxyo waaweyn loo keenayo sidee loo soo saari karaa dadka noocaasa si aynu nolosha cashiradeeda ugu bedelno si taabasho leh oo practice ah waad mahadsantihiin salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بمهد الله كان سكوكين كاني سكود يسجر بوحنا وهم هاد علينا يعني بنالس كان ديسكشن كانوا سميني سجرنا وحنا وهم هاد علينا يعني استنتي في واحد حكومتي وبرنامج كان يكون سعودي المقعي وهلال يوسف أحمد سؤال ويديني يعني أنا واحد هاي واحد شراء برنامج بدن أمباي واحد شدني كرتو كلا إن لقبته برنامج نوعا وكلا amba ay naga tagaan dad sidaan oo kale hal abuur u ahaa iyadoo lagu wada xukuman yahay geerida oo jidkan la wada hayo sidee ayaynu u xusi karnaa amba aynu xakameyn karnaa amba aynu xulan karnaa hadba sidii fudud hadba sidaynu maareyn karnaa in dadka aynu uga helo xogtii ay reebeen aynu u kaydino si mar jilba jilku ka dambeeyo si fudud ugu gaari karo mar kalena haddii aan dul istaago allah u naxariistee 2021kii intaanu dhiman ka hor ayaa wax dhacday sooraan baan iskugu nimid meel aan ka galan jabinay deedna khudbadu noo jeediyay waxa kamid ahayd oraah baan ka qoray ahayd intuu sidaan noo eegay buu jeediyay khudbadii markaan dhamaysanay baan anagu khudbada taagan baan ku nidhi waxaad nagu dhiirigelisay baan ku uri inaanu dalka joogno inaanu dalka wax ka qabano bal waa kana maxaanu ka qabanay deedna intuu qosliy buu yidhi waxaad aniga doonaysaa inaan qabto eed adigu qaban weyday ilama aha inuu dalka yaalay shaqaysa dad doonaysa inaad shaqaysato waa orahyadii allah u naxariistay aan ka qoray waxaan caawa doonayaa in mar labaad faatixada loo maro ilaahay qabriga ha nuuro marti la jecel yahay halka yeelo waad mahadsantii ay inankaasi isna koofiyadda wato waa inankaas بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقهرين مقعي واحد اللي هذا سحر جديد والسلام يا صاحب بدل مدرسة عاوة سوق رحيي وحرر وقهرين المهد علي صاحبك محمد داود عبقري ومدرسة نوسع السومي يا محمد عبد الولي صاحبك ويسقون أحقرب كيجا كنتي صوران وحوها أبو الصوماليات إلهي هون حريستو وحوها معلم وحوها قف يونيك أو صوماليدا كوير runtiina qof la isla wada ogol yahay oo Soomaalidu aysan wada mucaaradin uu ku yar yahay Soomaalideena qof dadku aysan waxba ka sheegi karin inta badan Soomaali ahaan uu nagu yar yahay sida for example oo kale Sheekh Mustafa Ismaaciil Allah barakeeyo yani ma arkaysid qof Soomaali ah oo ku oranaya Sheekh Mustafa yani ama radinaya oo kale
sooraanna sidaasoo kale u ahaa waa dad runtii ay bulsho ahaan aad iyo aad bay inoogu yar yihiin dadka noocaas oo kale ah waan ku faraxsanahay mar kale madashan inaan soo xaadiro qiimo gaara bay ii samaynaysaa in aan caawa ka soo qayb galo meel lagu hayo cilmiga bulshada siiba dadka waxtarka leh hal-abuurka leh abwaanada inaan imaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sooraan markii wax badan baa laga soo hadlay way mahadsan yihiin aqoon-yahanada sooraan waxaan anigu ku xasuustaa riwaayad dabcan lagu jilayay 4 ciwaan oo waaweyn haddii aan khaldanayn ciwaanadaas waxaa ka mid ah jahliga iyo cilmi oo iska soo horjeeda waxaa ka mid ah faqri iyo barwaaqo oo iyaguna iska soo horjeeda waxaa kaloo ku jirtay balaayo oo dabcan intii mid daawatay waa garanaysa waxaa balaayo jilaysa markaa gabadh ka mid ah gabdhaha reer burco balaayadaasi marka yacni waxay wadataa dad aad u fara badan baa la shaqaynaya oo midiyo iyo waxay wadataan waxyaabo fara badan marka runtii riwaayadaas kale waa riwaayad wax fara badan gudbinaysa intaasi markaan ka soo tago halkan waxaa fadhida caawa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed runtii waxaynu nahay dadka Soomaalida mustaqbalkoodii u soo korayay baynu nahay sidaad ogtihiin dad fara badan oo qiimo leh baa sii geeriyoonaya geeridu waa loo wada siman yahay laakiin waxaad u garan kartaa sida haldoorkii bulshada uu ilka ugu sii dhowaanayo war dhalinyaro gabdhaha quruxda badan ee madashan soo xaadiray iyo wiilasha waxaan idin leenahay ama aan idin leeyahay waxayna sugaysaa fikrad qurux badan oo sida madashan cilmiga bulshada ay qursida quruxda badan ee madashan ay u soo agaasimeen oo kale in sooraan ay ka hadlaan marka sooraan kaliya ma aha ee waxa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo qiimo leh oo dabcan geeriyooday dadkaas in la xuso oo magacoodii iyo taariikhdoodii la baaro dibna loogu noqdo aad iyo aad bay u qurux badan tahay tusaalaha ugu yara kaaga filan waxa weeye waxa laga yaabaa caawa dad fara badan oo halkan yimi in ay halkan kala noqon doonaan indho horumar dabcan oo isla markii hore ku eegi jirin sooraan laakiin caawa siyaabo badan bay u eegayaan marka waxaan rabaa inaan su'aal ku soo gabagabeeyo igan raalli ahaada waxaad ogtihiin wax walba oo bulshada Soomaaliyeed ay qabato haddii ay fan iyo hal-abuur noqoto dabcan wixii horaa qurux badan sidee marka aan ku soo kordhin karnaa fan qurux badan oo magaalada la jaan qaadi kara aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum bismillah su-aasha labaad ee hilaal baan ku biloobayaa oo dadka haldoorka ah sideeba maaragtay loo xusi karaa ama loo weyneyn karaa runtii waxaan jeclaan lahaa madashan iyo barnaamijkan sooraan oo nool inaynu qabanno baa fiicnaan lahay dabcan qofku inta badan markuu dhinto unbaa Soomaalida la xusaa allah u naxariistay gaariya wasagila aan ku ilmeeya horta dhimo af maahe ifkaan kaga baahna in yaro aqoonsiya marka walaa waxay ku fiicantay qofku intuu nool yahay markuu dhintay intii la dhihi lahaa maaragtay qof fiican buu sidaan waa intuu qofku nool yahay in xus loo sameeyo maaragtay la weyneeyo allah u naxariistay sooraanna ma helin arrintaas iyo maaragtay qadarinta bulshada ka mudnaa waxaa laga yaabaa dadku inta badanna inay iskaga arkayeen wax iskaga maadaysto laakiin aysan u arkeen qof bulshada waxtar u leh marka hilaal waa la qabaa su-aashaas ay weydiisay in dadka bulshada waxtar leh dabcan la xuso weliba inta ay nool yihiin qofku markuu dhintay da wuu dhintay marka ayaan dhawt waxaan aada ugu farxay allah u naxariistay intuusan dhiman ka hor Saciid Jaamac Xuseen oo nin qoraaya sheekooyinka gaagaaban qoraaba waxaa niman badan oo Soomaaliya oo wax qoraaba waxay u sameeyeen xus ay kaga sheekeynayaan taariikhdiisa marka dabcan waxay la tahay qofka bulshada waxtar u leh inta uu nool yahay in la aqoonsado la weyneeyo halka markuu qofku dhintay maaragtay laga dhihi lahaa saas oo ay wax fiican waa marka madashan iyo barnaamijkan dabcan xilligaas ku habboonaa wuu soo daahay laakiin bulshada hadda inta macnaha leh ee nagu dhex jirta aynu hadda intii nool yahay aan noolayno bismillahi raxmaan raxiim tubaac su-aalna weydiiyo runtii xiise lahayd baa jirtay qofka bini aadamka innaga welibana Soomaali ahaan dadka hibooyinka leh inay helaan aqbalaad waqti badan bay ku qaadataa ama hibooyin badan waxay dhintaan iyadoo aan la ogaanin tubaac walaal waxaan aaminsanahay waa wax dhan oo isku xidhan oon cid gaara ku xidhnayn
oo kasoo bilaabaysa qoysaskeena inaan guryaheena ku barbaarino ilmaha in hibadiisa iyo kartidiisa iyo ogaalkiisa la aqbalo oo la dhiirigeliyo oo la garab istaago marka ka bilaamaysa ogaanshaha muxuu ku fiican yahay iskuulkiisa haddana ku xigaysa bulshada kusii xigaysa marka dambana dadka maaragtay talada gacanta ku haya inay u abuuraan dadka platformiskii ay hibooyinkooda kusoo bandhigi lahaayeen la siiyo waxaa ku cadaynaysa sooraan markuu jilistan casriga uu bilaabay 2012 inay ahayd baan filayaa waa xilli uu fanka ku jiray waqti dheer 79 lagu kusoo biiray marka in hibadiisii waqti intaa lagu ogaaday aqbalaadiisina waqti intaa laga qaadatay runtii waa arrin naxdin leh dhalinyaro badan baa maaragtay oo hibooyin leh baa guryaheena jooga oon aqbalaad ka helin waalidkood dugsigooda ka helin laga yaabo in lagu caburiyo ama lagu ceebeeyo marka waa hawl weyn oo inoo wada taala oo qof kasta kaalintu kaga aadan yahay tahay inuu qaato ina guryaheena uun ka bilaabno oo balladii ugu yaraan ilmahaaga aad fursadaas siiso dadkii kalena aad ku wacyigeliso laakiin waa qodob ay muhiim tahay in laga hadlo taasi waa qodob weliba intaanan ka gudba waxay dhahay dadku markay fursaduhu ku yar yihiin isriixriixa ku badan marka fursadda yar dad yaroo kooban baa raba si ay u tagaan halkaa in dadka intiisii kale ay ku istaagaan marka sababtaas baa aqbalaadu ay u yaraanaysaa su-aasha kale iyaduna xiise leh baa jira oo ah maxaa fankeena ama wax kastoo in leenahay uu yahay wax markii hore fiicnaa laakiin su-aal kale aan qaban ahaa run ahaan sidaa miyay tahay ma wixii hore fiicnaa waxyaabaha qaar waxa ka jiraan laakiin wax badan oo kamid ah inay aaminaad tahay bay la tahay marka waxa berisamaadka laga sheekeynay hadaa dib ugu noqoto berisamaad ama sama kaaga muuqanayo macna leh inaysan jirin laakiin ay wax badan ay perception ama buunbuunin fara badan ay tahay marka hadaa xasan aadan uu ahaa xidig iyo haliyey bulshadii uu la noolaa أنا waxaan aaminsanahay dhalinyarada 20 jirada inay xidigooda u yahay sharmaboy ay aqbalaan laakiin sharmaboy sidee u arkayaan bay ku xidhan tahay marka waxaan isleeyahay sidee u noqonaysaa intii la isweydiin lahaa maxaa la yiraahdaa waxa ka muhiimsan miyuu jiray berisamaad ka fiicnaa xilligan aynu joogno aad baa mahadsantihiin waxaan kusoo gabagabeynayaa wiilkan dhalinyarada ah waxaan isleeyahay رأيي وقرأي إن بدون يقطع مرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن دمان صاحب بيال مركو ورسو حاوم هاد علينا social science forum يو أستان أو رنتي برنامج كان جايسم كيسي جيدين تيسي يو معركتي واحد بدن سكوه شيء حمدو مهد علنا سلم إذا عبد العزيز سنة ومهد علنا وحن قالوا مهد علنا أخيارتي كسو موقتي دوكيومنتري داولي يعني كسو موقضي عمر سير بيا إنه بحان رجينا يو أو جود عد قرائي ترجمة أسيقنا ومهد علنا سلم إذا صاحبك يوسف سحر الدين وأن مهد علنا مركي تالي كسو جود وحن ربعنا وكدرو لوقت برنتي فنك أما قيبتا سوغانتا روايضو وقيب كميدا سوغانتا أما شيكا فنايدوبا runtii laba waxyaabood ee aad maaragtay uga sameeyeen oo ah horta marka koowaad in loo isticmaalo kicin in dadweyne la kiciyo wax ay ka qabsan waayeen oo kale in lagu kiciyo oo la yiraahdo bal waxaas jira marka waxa loo maraa marka iyo qodobka labaad oo ah tilmaam in wax lagu tilmaamo runtii sheekooyinka gabayada iyo waxyaabaha ay sameeyaan oo suugaanta ahba iyagoo dhihi karo waxaan halkaas yaaliin ayaa waxa loo maraa wado juhdi iyo dadaal dheer loo maraa oo waliba si mal dhahan ah badan hadaad akhristaan sheeko faneed hadaad akhristaan oo hadda intii ugu badneed maxamed dahir afrax allah una xariistay la sheegay waa la dhihi karay macnaha wuuna dhihi karay siyaasiyiintu habeenkii gabdhaha iyo jirkooda si qaldan lacag u iibsadaan waa la dhihi karay laakiin wuxuu u maray qaab sheeko ahaan ahaa loo dhisay taasaa marka waxa loo gudbiyey fariin laakiin qofkii indho fiiqan ku eega qoraalada iyo maaragta waxyaabaha qoran ayuun baa garan kara runtii sooraan ilaahay maaragtay jannadii firdaws ha ka waraabiyo intuu noolaay dadku badanaa kuma baraarugsaneen muhiimadda iyo maaragtay waxyaabaha uu leeyahay laakiin abwaangaari wuxuu yiri Soomaalidu waxaan u bixiyay yiri aasi og
أنا أسيء قفكم مركون ديتوير اللي يرهذا يجر الله هبل بان قد دنتي وقبر يسال وجود وياه يجر وحايرود أمريكا عنيقة أصغر يعني ديجني أرصغر هاللي ديجو وماركت أنت أصغر إيدي لهذا وأنت صلعاء وبح لهذا أنت صوح يقل لهذا أصغر إيدي وإي أروسيا وإيروير مركا بدنا أنا تدوينها بدن كود وحماركتي كم برروسن أبوان ذا قف كده تريد بل إن أبوانا مارت لشة كيسنا أما نسوجين وحكول وكم أرتمحو فإذو لي هاي وحرام مرك هالشاكين مش سوق بحو أبوان جاري وكشيكي وانكسوق بجبنا أبوان جاري وحير هذا كور أنا جا يهدراوي وقلب أنت ما عرفتي لا ما تشاهد ما يقصو قاعدنا ويري لا ما تشاهد كمركو ونقارناه ويراني أسرع كرفينا ونقارناه وير مرك لا والله ما سوق قاعدنا ويري الله ونحرسته ما لا فدي سنة وير مركز واقع عشري واحد شران كشيء كسناه وير مركز أنه بهالشي فدينه وير مركز وحنو يمدو ده ركّت رسنو ده عيدا كي ما عرفتي محمد سياد بر عيدا كتر سنة سراكيش مارك سردون كانوا يمدو قبله وين حيران ده مركز وحين نوجين وير مال وين أو إذا فديان وير رك بدون أبوانا وحن كحسوستا وير يم وحن كحسوستا وير نكال وير أحمد فارح علي إذا شاء يعني كحسوستا وير مركز ساس مركز لو فدي يري محمد الصوغ اللي يري الله ونحرسته محمد سياد برا صوغ علي مركز وحين يري كاليا ونسود يري مركز درب وين كان يري دربي مركز واحد صور يري هذا أرتيستا إنه قانون أمين أرتيست أي صوره هاي مركز كعان كي نكي مارت صور كي وحوس منا فرش حمض مركز صور كجدار كونه حكو صورنه يري محمد سياد أما نن أكو صورنه يري نكاس وحول الله يري dad kaas falaare afkeeda ka sii baxayso yiri markaas waxay ku dhaco yiri dad badan oo meel fadhiyo ee falaarta ku sii dhacay markaas uu maxamed siyaad barante gacanta soo qabtay wuxuu yiri abwaanadiina waxay tihiin uu yiri dadkaas falaartaas macna ay ku dhacayso idinkana bulshada wax u sheegteen yiri waxa idin siinaa uu yiri 48 saacadood malaha meelaha ahayd uu yiri illa nin wuxuu yiri 24 saacadood wuxuu u jaruuday dawladan oo weyn u jaruuday oo Soviet Unionka Ruushka ma wuxuu yiri ma abwaano u daha waa may markaas wuxuu yiri 48 saacadood haystaan haddii aad ku soo cadeeweysaan waxa aad tihiin ama waxaad bulshada u gashaan qoortaada la idinka jirayo yiri xabsi aad dhigi doonaa waan baxnay yiri Djibouti isku tagnay waxaan maaragtay kaanu yiri fikradii waxaan keenay hadda waxa ka dhawaajiyay saaxiibkay maaragtay oo fiqiya ka dhawaajiyo ah abwaanadu shaqadooda ama suugaanta waxyaabo ku harreysantan waa dadweynahan hanuuna marka wuxuu yiri maasadaas sameeyno yiri si aan uga fakano yiri xabsigii iyo maaragtay godkii oo nugu ridi la maxamed saad bar waxaan abuurno yiri maansaas macna dadweynahan hanuuna oo anagu shaqada aan leenahay waa taas marka suugayahanada ama dadka abwaanada ama dadka sheekooyin qora ama dadka wax sameeya dadweynaha meel ay u tilmaamaan laakiin qofkii indha fiiqan ku eeg waa anigu ma aaminsani waa dhintay abwaan sooran waa dhintay laakiin shaqadiisu qof kala haya shaqadiisii waxaa kaloo hayo garab istaag maanta nooga baahan wiil la yiraahdo sayidka barakeysan haddaad garanaysaan waa nin u sameeya suugaanta fanku soo dhex gudbiya marxaladii waaqac jir runtii ka hadla waa nin aan dhihi karo maaragtay wuxuu shaqadii ka sii wadaa meesha ka sii wadaa dhammaantiin waa mahadsantihiin habeen wanaagsan واتي صاحب بيان واتي caawa halkaas waxaynu kusoo gabagabaysanaynaa barnaamijkeennan oo magaciisa weyn aynu dhihi karno ciwaankan ka sokow mashruuca sooraan aynu u bixin karno barnaamijka waxaa soo agaasimay social science forum oo ah team dhalinyaro oo academic ah oo inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada sidoo kale waxaa marti inoogu ahaa xamdi cigaal iyo cabdi ciise oo iyagu in fara badan mawduucan kasoo fikiray soona dhiraandhiriyey annaga ka astaan TV ahaana doorkayaga warbaahineed oo ah jihaynta bulshadu ma ahan mid ku kooban wartabin iyo madadaalo oo kaliya sidoo kale waxaa ku lamaan waxbarid oo asaas u ah warbaahinteeda forumyo noocan oo kale ah oo fara badan oo cilmi ahna waynu isugu imaan doonaa haddii ilaahay idmo waxaanu idinkaga mahadcelinaynaa waqtigii aad noo hurteen iyo intii aad noo dulqaadanayseen oo halka fadhideen dhammaantiin waad mahadsantihiin sidoo kale yaan la ilaawin
ducada marxuumkaas in qof walba uu si qalbi rabbu ku naxariiso waa mahadsantihi